barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo barqadi ninkii baar fariisto beeniyo sheeka baafinayo gajiyow bakhtiyo basaasto duntisu ka boodiyo bulaanye gajiyow bakhtiyo basaasto dantisu ka boodiyo bulaanye waxbartaan barwaaqa gaarane waxbartaan barwaaqa gaarane بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد ضمان وقت شرفك سوقت كشيء حفلتها سيدا مسؤولين تا كاتوان حلبانا هير فدرال وسيرة هير فدرال وسيرة هيرشبيلا حلبانا هيرشبيلا وسيرة كوفر كالبيت حلبانا كوفر كالبيت مسؤولين تكلا هجاسمياشا وحن كمان سيسرانيا وزير الدولة وزارة الكريدكا وزير الدولة وزارة السبورتيا اليوم أفاينكا كورونا بناتي وزارة وحبرشة هي سنة وزارة الكريد دولة هواء أو سيدة البنابا يكون سود من جامعة كيريهو وزارة كريدكا مكان كهلا أهمية ما أنت وتعي وبنتيلو إمبرانيان سوق بيجي أرتبا قلنتبياشا أرتبي هو قلنتبي وشغل تكتي تريد التافيرة والفينتا أرتبها هذا قلنتبيسا اليوم مسؤولين تكلا مسؤولين فرانيا سلام سلامتا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هذا السلام يا معلمين جامعة كيريهو أرتبي هو البحرين كنت بها وكهويك أفيك بيشتا جامعها وزارة تدوين كشن ما أنت نرفع بيا سحبنا عن هاي جامعها تبدأ عن بعض الشيء أولين هاي وحلا هاي لما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنكم هذا الآيات سيدا بروح القرآن المسلمين تكالتون النصي الوقت والقائلة أيضا أنا كأحسن فرحتى ما أنتقل المدرسة جامعة كيريهو كعيسى ناشونال تياتر أنا أقول شغلتي لما فرحت يوجد فرن أرتدى الصومالية آل بروح القرآن مكي أن أنت وبحران فاعل أنت بحث جامعة كيريهو جامعة كيريهو وعلى أساسي لا بد يلحدي هذا الأول الجوال لا بد أن نرتيبه waxay shaqaynaysaa muddo 15 sano oo qura ah 15 ay shaqaynaysaa habeen maalin waa jaamacad tan gaartay masarkeeda iyo baajkeeda ay maanta fadhiyaan insha Allah dafcad ahaan waxa ka baxday 6 hore ee dafcadood iyo 2 mastara halka maanta ay ka fadhiyaan dafcadii 9aad iyo mastarkii 3aad فرعية جامعة وحيلها هاي فرعية طبعا حمر وحيلها لبا كامبس كبولة وحيلها هاي شن كبول هيك شغل بلنا شغل تلتي ما أنت وحكم من كبولة أرتي كقل جريسا جامعة كيرو فرنجيرة وأن فرحت أن لو راجينه الكل من الكل هاي هم بنيو مركي أن
jaamacadaha aan ka sheekeeyo jaamacaddu waxay leedahay jaamacado badan oo dibadda iyo gudaha gobollada iyo magaalada xamar jaamacado badan ay gacansaar wada leeyihiin dibadda jaamacadda Greenhope waxay partnership ay la tahay jaamacadda KIU Kismaayo International University maanta nala jooga iyo 86 jaamacadood oo caadi u wada shaqeeyaan oo jaamacadda Greenhope ku xiran yihiin jaamacadda maanta nala jooga bixin doonta masterka KIU Kismaayo International University jaamacaddaas waxay ka howlgashaa gobollo wadamo badan ee ka bixida qaybta masterka Soomaaliya waxay partnership ka noqotay ee ka howlgashaa hura jaamacadda Greenhope oo maraysa masterkii saddexaad masterka Greenhope maanta bixinaysa waa 2 master mid gudaha ah iyo mid dibadda ah dafcadda maanta qalinjibinaysa waxay ka kooban tahay 8 faculty oo part ah iyo 2 dafcadood تعلمت وحكمل public health nutrition laboratory nursing public administration IT technology criminology مستعدي وراء جامعة كبيرة وقد بحرم مادرة صومالية ومادرة رياضية قادرة فرصة أصلا وحياة أفترا آية ورغم الجبلي وحنا كفر صدعين markii aan ka hadlo jaamacaddu uma taagna tanteeda ah oo qura waxay u taagan tahay danta guud ee bulshada inay la jaan qaato hadba soo ardaygu yahay ay ku qaabisho insha allah annaga xooga saarnay ardayga naga qalinjibiya inuu yahay arday aan ku kalsoonahay oo shahaadada aan siinayno ay tahay mid aan ku kalsoonahay una aaminsanahay aqoonta uu xambaarsan yahay shahaado kale Greenhope inay ka baxdo marin maayo arday soo tacabari 3 sano 4 sano soo maray aqoon xambaarsaday taas ayaan ugu aamini karnaa insha allah sababtoo ah macallimiinta jaamacadda waa macallimiin gudaha iyo macallimiin ajaanib ah oo macallimiinta gudaha ay yihiin runtii macallimiin master iyo PhD wada ah sidaas awgeed waxaan ku kalsoonahay arday naga aflaxaa uu yahay arday aan ku kalsoonahay berika maalin mas'uuliyadda uu qaadi karo insha allah horaha ballan qaadnay haddii ardaygaas shahaadada aan siinaa mas-uuliyiintii aan ku ogeyn uu ka soo baxo intii loo soo celiyo hore uu sheegay insha allahu taala yidhahdo waxaa marka insha allahu ardada hadda fadhida waxaa jirta dafcado 8 hadiga hooy oo tiin dafcadtii 9aad waxaan qiyaasay dafcadii hore dad aad iyo aad mas-uuliyiin u noqday oo hadda aan ku kalsoonay meel ay joogaan aqoontii kan u sheegay dadnimo ay ka muuqatay ayay ahaayeen idinka waxaan filaynaa ina sidaas aad noqon doonto haddii la yidhaahdo sababta waxaan ognahay aqoonta ximbaarsantiin insha allah haddii la yidhaahdo waxaan marka insha allahu inaan dardaaran iyo ballamo aan wada galno maadaama aan ka dhammaan doono insha allahu arday gudaha ku qalin jibiyaaho wuxuu ka mid yahay arday jaamacadda ka dhashay kuna soo noqoto insha allah haddii la yidhaahdo ardada baajka ah ee hadda qalin jibiday waxaan rabaa in ballan qaado 2 qodob oo kala ah على أرتي إن سيلابا أرتي أو سكولشيب من تجارة هتو ربنا كتير سلام هتو ربنا كتير اليوم دبل باج جامعته سيتوتو سكولشيب أما ديسكونت وسميتهم تطلع يرابو تاسنا عشان وبرلمان كان إن شاء الله واحد كانوا جامعته بحين ساعة مصر كانت تبت جسمان بس هي مصر كلها Greenhope هتي مثال أروح بعض مصرنا وقوبنا تاين نكسي وطال كذا وديسكونت وسم إن شاء الله كله واحد إن شاء الله بلان قاري أو سكولشيب ده مصر كا يو باج كا إلى علشان كفاية شتانتي له يرابو waxaan rabaa عشان aan ka hadlo ardada qalin jibida sanad kasta waa 2,000 oo baaj ah ama master ah oo jaamacad kasta ka qalin jibiya xujayda sanad kasta Soomaaliya soo gaarta intaasoo kun oo soo xajinay ilaa haddana ma fahmin meesha taqadara lahay waxaa loo baahnaa ardayga qalin jibiyahu inuu la yimaado isbeddel dadnimo kobcin ama bedelaad xujayda kale sidoo kale
marka ilaa hadda wadankuna waa degi layahay waa iska qabanaa lama yaqaan waxaan uga rabaa in lagula ballamo ardayda girin hor sidaan kuwa loola ballamay ballanteenu waa cadaalad haddii alla yidhaah oo shaqo tagtaan waa ogaha qaarkii inay shaqeeyaan ay shaqa culus hayaan mas-uuliyiin dhab ay yihiin kuwa kale ay noqon doonaan sidai saaxiibadii horu qalin jibiyey ee aan ku ognahay mas-uuliyiinta hadday ahaayaan cadaaladooda waxaan rabnaa inaan arday girin hor aan ku faano aqoontiisa kartidiisa aan iyagu darno inay cadaalada xajitaan cadaalad insha allahu taala yidhaahdo waxaa la yidhi dhagax biigama dhaxmoodo nin dhasha ma dhuunto jaamacadda girin hor 9 dafcad soo saartay iyo 3 mastera waxaan leeyahay aqyaana waa taa insha allahu taala yidhaahdo معاً جامعات لا كنيسة جامعات 86 جامعات تبت حرير كعنصر له ما أنت أنا كيسان جامعات دي اسمه بس أكتر من ذلك كمرو إن رجع ماشي إن شاء الله وتلا يراه وحكي فكرنا آلهينا إلى فوقينا مجينا أنكب عنا أقولتنا أنكرهم إن شاء الله وتلا يراه 86 تفاعلات 86 جامعات أو ساعات أو ماشان ما أنت أنتكتان مجينا دي إن شاء الله وتلا يراه taasna waa fursad ilaahay siistay ka faa'iideysta hadday tahay master hadday tahay batch hadday tahay online haddii wax xaroonistaan annagu waxaan diyaar u nahay inayda garab taagnaano ida sagootino ida tilmaamno aad ka faa'iidaysataan insha allah ka faa'iidaysataan saas ayaan rabaa inaan ku ballanno markii waxaan ku celcelinaa mar labaad iyo mar saddexaad cadaalad waxaa jiray tadyowga dhaqamo kala duwan ay leeyihiin nin ayaa wuxuu lahaa geel wuxuu damcay inuu geel u duceysto wuxuu yeeray dad saaxiibadiis ah geelii wuxuu ka qaaday owr geela ka mid ahaa markii la cunay owrkiia waxaa loo duceeyey ninka geeliisii asigaba waxaa loogu duceeyey 2 kelmad oo ah warsamow geeloo taagan kama tegtid adoo taagan geelu kama tago maxay tahay isagoo taagnaada waqti aan yiraahdo waxaan ka wada girin hoob intii Soomaaliya ay jirto way jiraysaa insha Allah taala yiraahdo intii Soomaaliya jirto guryo jiraysaa intii guryo Soomaaliya jiraysaa insha Allah taala yiraahdo saas ayaa loo ballamay cadaalad ha ahaato waxaan ku ballanaa jaamacadana fursadaha sidii balan qaaday insha Allah oo master ah iyo batch ah waa idin bannaan tahay waad ka faa'iideysan kartaan iyo min laba arday oo ardada qalin jibin aan siinay insha Allah saas ay jaamacaddu saakii soo dhaweynaysa farxad iyo wajhi furan iyo sagootin ay diyaar leedahay insha Allah waxaan ka barqaati kacinaa dad aqoon leh dad nimada mudakiriin tihiin insha Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudanayaal iyo marweyne waxaa maanta sharaf weyn noo ah dhammaanteen cid kasta oo maanta qalin badaladay iyo cid kasta oo kan ka soo qayb gashay inaan isugu nimid farxadan quruxda badan oo sameeyeen labada jaamacadood ee Green Hope iyo jaamacadda Kasimadis International University taasoo maanta ay noqotay maalinteeda oo aan ka qaadanayay master degree-ga ee ah Security Management and Intelligence Study taasoo aan shakhsiyan aan u arkay in baahiyo gaar ah ay u qabaan ama guud ahaan baan u qabnay waddanka Soomaaliya mar aan arkay oo la iga sheekeeyay oo reemay ahaa in badan magaalada u dhow ama tuulooyin u dhow u safri jiray awalkiisa wuxuu u dirsan jiray sokorta iyo calanti dhowr mar markuu magaalada ka soo adeegtay wuxuu yiri wiilkiisa warnay maalin adeeg ma dooran karnay orodoo tuulada taga waxaa noo samaysaa sandaqad yar waxaa noo furtaa dukaan dhowr neef oo geel ahna waa loo gaday bal wiilkii meeshii dukaankii ka furay tuuladii aad u fahmay kadib wuxuu yiri waxaan aad u safraa magaalada waxaa samaysaa kaale dukaanka si gad odigii baaduu ka yimid dukaankii aan looga tagay wiilkiina wuxuu u safray magaalada balna odigii habeenada kamid wuxuu qaatay lacag 3,000 shilin ah dukaankiisii ooma ay taalo wuxuu ka soo gaday dukaanka marka wiilku ka soo gaday wuxuu yiri war adeero ooma dukaankayga taalo maxaa u gadaysaa wuxuu yiri meeshaas ku dirisiga ugu ka dhimis malaha macnaheedu wuxuu garanaynin ooma u taalo wuxuu u fahmay in meeshaan ay u baahan tahay laakiin lacagtii oo faa'iidada badneed wuxuu sameeyay barnaamij u bixiyay oo dukaan kale ganacsi u abuuray saas darteed
waxaan aaminsanahay in wax badan oo aan shaqo aan ka qabanno dowladaha federaalka ama heer state ama cid kastoo shaqadaar ay qabato aynan ku habboonayn wixii ay qabanaysa aysan qabanin ee ay qabato wax kale. taas marka waxay sababtay in horumar badan oo la samayn lahaa ay gaabgalaan. macnaheeda qofkii uma hayo capacity oo wixii uu ku qabto maxaa yeelay malaha aqoonteeda. that is why marka aan maanta aan soo gabagabaystay jaamacaddeydii master degree-ga oo aan aad ugu faraxsanahay uguna mahad celinayo macallimiintii sida waqtiga badan ee noo soo dhiirigelisay. sidoo kale muranayaal marwaliin waxaan idinkaga mahad celinaynaa sida maanta fadhigan aad noogu qurxiseen oo aad waqtiga nooga qaadateen. maxaa yeelay waxay noo samaynaysaa dhiirigelin farxad badan. in badan oo weli dhexda kusoo jirto waxay ku dhiirigelinaysaa inay heli doonaan maalintooda intaan idinka badan. waana rajaynaa wax badan in macnaha waddanka uu wax iska bedeli doono cid kastana departmentiga ay baratayna inay kasoo bixi doonto. run ahaantii mar kale waxaan si gaar aan u salaamaa profesaradii safarka dheer nooga yimid waddanka Cameroon nooga yimid. aad baan idiin salaamayaa. waxaan idin leenahay soo dhawaada dalka. waxaad dareemaysaan farxad gaar ah. caasimadda Soomaaliya run ahaantii waxay ahaan jirtay Afrika meelaha ugu qayb badan oo loo soo dalxiis tago. waana ku faraxsanahay maanta inaad nala joogtaan waddankaana qaaliga ah. waana ku mahadsantihiin. sidoo kale wasaaraddeena waxbarashada ee aad jaamacadaha usoo garab istaagtay waqti badan soo gelisay in badanna dabagal badan ku samaysay. waxaan rajaynaa sida wax ay ku wado wasaaradda waxbarashada waa wax aad loo bogaadiyo oo aan aad usoo dhaweynayno waana ku faraxsannahay. laakiin annaga waxaan qabnaa wasaaradda cid kastoo nagala joogto xoogo waxaan qabnaa dhaliil yar ah oo ah jaamacaddan Green Hope oo listigii maalin hore laga yara reebay oo aan garananahay sababta kaliftay maadaama jaamacadda ay sii marayso inay ka qalin jebiyaan baajkii 9aad. waxaana is leeyahay in ay wax ka qaban doonaan. runtii inta yartay magdalaada ee ardayda halkaa fadhisa ee sacabkooda aad dareemaysaan waxaa waaye xanuun ku taagan. waxaan filaa in wasaaradda waxbarashada halkaas ay ka qaadan doonto kaalinkeeda oo ku aadan in jaamacaddan aan dareemayo in dad badan oo kasoo qalin jebiyey dalka hadda ay wax ka qabtaan. sidaas awgeedna aan rajaynayno in ay wax badan ay ka bedeli doonaan. waana ka codsanaynaa hadduu alle mudanayaal iyo marwaliin waana saxaafadda iyo xildhibaanada dhammaantiin waxaan idin leeyahay mar kale hambalyo waana mahadsantihiin. sidoo kale jaamacaddeeda qaaliga I'm extremely happy that I have used this university for my studies security management in the last 2 years. Kasmodis International University has become mother of knowledge, and I'm very happy today to say you thank you. Journalists, welcome. And one of my sentiments, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. إله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله وحمانت الشرف إيو وحو أن لتلمامي كرنية أحيانا مانتا أن كبد أهي أرضيدا مانتا يوم أدلانتا حفلتو يا قليم دمينتا أنيغا وليبا سيجارة aan muxuu ahaa mudnaan u siinayaa inaan ka mid ahay ardayda maanta ka qalin jebinaysa jaamacadda Green Hope. jaamacadda Green Hope waxay leedahay haddaan wax yar dib u milicsado taariikh gooniya. markii aan dhameeyay dugsiga sare ayaa waxaan go'aansaday inaan doorto jaamacaddii aan ku biri lahaa. sanadda waxay ku beegnayd 2006 iyo 2007 meelahaas. waxaan indheeyay jaamacadihii markaas waddanka ka hana qaaday oo ay ka mid ahayd jaamacadda Green Hope. jawiga waddankaas oo waddanka ka jiray xilligaas oo saamixi waayay in gudaha waddanka wax ku baranno ayaa wuxuu igu qasbay inaan dibadda u hayaamo oo aan halkaa Yemen u dhaqaaqo oo aan baajkii iyo masterkii halkaas aan ku soo diyaariyo oo labadii digrii oo shahaado halkaas aan ka soo qaato. laakiin jaamacadda qalbigeyga ayay ku jirtay welina kama aysan bixin. markii aan waddanka dib ugu soo laabtay oo aan reer yagleelay oo aan shaqeeyey kadib
ayaa himiladeedii oo waagii aan ku hamiyey oo ah inaan ka mid noqdo bahda jaamacadda Greenhope ayaa maanta ii rumowday aniga oo 2 sano ka hor kusoo biiray 3 sano ka hor kusoo biiray jaamacadda oo ilaahayna uu waafajiyey inaan ka mid noqdo bahda maanta baadka sagaalaad ee jaamacadda ka qalin-jebinaya kuliyadda criminology-ga and security study marka arintaas waxay ii tahay farxad gooniya aad iyo aad ayaan muxuu ahaa ugu faraxsanahay yaana ka tagin salaanta intaas markaan hordhac uga tago waxaan halkan ka salaamayaa mas-uuliyiinta qiimaha iyo qaayaha ardayda ku leh oo igu horeeyaan wasiirada heer federaal xildhibaanada heer federaal golayaasha baarlamaanka heer state ee hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyo wasiirada koonfur galbeed maamulayaasha jaamacadda macallimiinteena aadka qaaliga inoogu ah juhdiga faraha badan lagu soo bixiyay maanta inaan mirahan aan guurano waxaan halkaa uga faa'iidaysanayaa fursadda inaan tacsi tiiraanle aan u gudbiyo ustaad faysal oo ka mid ahaa macallimiintii kuliyadeenna waxna soo bartay waxaan leeyahay marxuumka bal aan hal mar faatixada u marno macallinkayna waxay ka codsanayaa inaan bal faatixada u marno hadduu ilaahay إلهي سبحانه وتعالى جنتي سفردوسها الله جيه معلم كيا وهو معلم قالب نجوعه علي بن أبي طالب بحجري نكي حرف برو وهو يفهمون قلها هديبا يشوف سقلتها إن أنا أقول نقولها يوم كف حرف صوبري وأذكر تقييمها وقت هذا كله هاي مركب أنت وأنا جوا سيا معلم كي إلهي محوها جنة الفردوس الله كورا وأنت مركب كسر دبوا وحن هل كان muxuu ahaa uga mahadcelinayaa dhammaan intii igu soo garab istaagtay inaan hawshaas adag aan u soo dhabar adeego oo waalid leh oo muxuu ahaa xaas leh oo muxuu ahaa asxaab leh intaasoo dhan waxaan rabaa inaan maanta uga faa'iidaysto fursaddan inaan halkan uga mahadceliyo waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsan tihiin guushii qayb ka mid a ayaan xaqiijinay waxaan intaas ku darsanayaa oo aan kula dardaarmaya ardayda asxaabtayda ah waxbarashadu dhammaad ma laha aniga maanta baajka oo aan ka qaatay Greenhope waxaan rabaa haddana inaan masterka aan usii gudbo anagu weliba muxuu ahaa baaj iyo master kalena wato marka waxbarashadu waxay tusinaysaa mar walbo inaysan dhammaad lahayn oo haddaad marxalad ka gudubtid inaad takhasus kale ama marxalad kale inaad u gudubtid oo aad meeshaada ku istaagin safarka uusan dhammaanin maxaa yeelay cilmigu waxay dhahaan carabtu waa min almahdi ila lahdi ومركي قفكه أو دشوا باللابانيا إلا قلت وكجرنا ولا سكوت أمانيا مال اللي جسوا حر علمي قبلها مركا ما أنت في الحد اللي بس وقوي قراءة دي أنا ما ستي حيث هاي الشرف يكرامه إن ما أنت اللي يعسونه فرصة أنا مناسبة بروح لبرن وأيكتل الجبنة أيام 40 صوماليات وولن يقبلوا وحان حسوستا hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed ee dalkan joogay iyo duruufihii adkaa oo ay ku dadaalayeen inay badbaadiyaan carruurta aqoonna siiyaan waa dhaxalka ugu wanaagsan ee waalid uu siiyo ubadkiisa waa wax aan laga qaadi karin waa wax aan laga xoogi karin waa wax aan isaga ma ogiyo ilaa uu qabriga galo qof kale aysan ka maaragtay ku samayn karin musuqmaasuq aqoontu marka waa dhaxalka ugu fiican waana halbeegga mujtamac kasta lagu qiimeeyo horumarkiisa aqoontu waa iftiinka nolosha waxay kaga duwan tahay marka aqoonta Soomaaliya ardayga jooga uu barto iyo aqoonta ilmaha wadamada dhaqaale ahaan iyo amniga naga fiican ay ka soo baxaan waxay ku kala duwan yihiin duruufaha nolosha oo ay ka muuqato karti iimaan alla aqoon iyo inaad aaminto iyadoo ay xabad iyo nawaafiic iyo qarax ay dhacayaan inaad ubadkaaga geyso iskuul si uu u helo dhaxal dalkiisa uu bari ugu adeego uga gudbiyo jiilasha kale hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed
ee oggolaaday inay iyagu dhintaan intii ilmahooda ay mustaqbal la'aan iyo mugdi ku noolaan lahaayeen oo ay jahli noloshooda ku qaadan lahaayeen. waxay mudan yihiin duco, waxay mudan yihiin ammaan, waxay mudan yihiin xasuus gaara oo runtii waxaan ku tilmaami karnaa inay yihiin geesiyada Soomaaliyeed ee badbaadiyey Soomaaliya. waxaan rabaa waxa la yidhaahdo civic educationka, ama in aad dalkaaga wax u barato oo aad lahaato dalkaaga, ku korto dalkaaga, badbaadiso dalkaaga, waxa xun u diido dalkaaga, ilaaliso qarannimadaada, ku rayso dowladnimadaada, difaacdo xuduudahaaga iyo badahaaga iyo khayraadkaaga. waxay u baahan tahay barbaarin, waxay u baahan tahay waxbarasho, waxay u baahan tahay in mujtamaca Soomaaliyeed ay bartaan sida dagaalka, dilka, colaadda, barakaca, qaxootinimada, dhibaatada ay u barteen inay nabadda u bartaan iyo nolosha. taana waxay ku imaan kartaa inay aqoon helaan ubadka Soomaaliyeed si mustaqbalka ummadda ay u noqoto mid aayo leh oo miro dhali kara. wax walba oo adduunka ka dhaca waa wax la barto. haddii nabadda aan baranno, wada noolaanshaha aan baranno, is-adeecidda iyo kala dambaynta iyo dowladnimada aan baranno, haddii aan noqonno dad quruxdii ay lahaan jireen la soo noqda, waxaan ahaanaynaa Soomaalidii jiri jirtay ee adduunyada ka tilmaameed nooc walba, hadday tahay aqoon, hadday tahay caqli, hadday tahay qurux, hadday tahay waxqabad iyo geesinimo. waxaan ku faraxsanahay maanta inay Afrika iska caawinayso dhinaca aqoonta. waxaa Soomaaliya ay samayn jireen dowlado Afrikaan ah oo loo diido inay noqdaan pilots, oo la yidhaahdo maskaxdiinu ma qaadi karto inay diyaarad kiciso. waxaa loo qarinayaa caqli ma lihidin, waxaa tihiin dad xoolo ah. inay Soomaaliya ka xoraysay oo derbiga lagu wareejiyey noloshooda oo ilmahooda laga dhaadhiciyey inaysan diyaarad raaci karin ama diyaarad wadi karin, ay Soomaaliya u noqotay macallimiin oo dugsiga tababarka duulista diyaaradaha uu ka furnaa magaalada Muqdisho iyo magaalada Kismaayo. waxaa ka soo aflaxay dowladaha ay ka mid tahay Burundi oo hadda ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya oo u joogaan AMISOM inay ka qayb galaan inay Soomaaliya nabadoodo. wadamo fara badan ayay Soomaaliya macallimiin u ahayd oo Afrikaana kana qayb gashay inay xoroobaan. waxaa wax ku bartay jaamacadaha Soomaaliya dowlado ay ka mid tahay ardayda Shiinaha oo scholarship ka Soomaaliya u bixin jirtay, iyo ardayda wadamada Afrikaanka ah oo aan walaalaha nahay. waxa aan ahayn iftiinka iyo role modelka qaaradda Afrika. positionkaas waa noo bannaan yahay inaan soo ceshano, waan leenahay kartideeda. waxaan u mahad celinayaa aqoon-yahanka Soomaaliyeed Professor Xuseen iyo oo ah gudoomiyaha jaamacadda, iyo Professor Mustafa oo ah maamulaha jaamacadda, macallimiinta professorada jaamacadda. Greenhope Soomaali ahaan waa rajada doogga ama cagaarka. rajada doogga iyo cagaarka waa waxa u qalma noloshu inay u orodo, waayo haddaan doog jirin oo aan cagaar jirin, indhuhu ma heli karaan meel ay ku nastaan ama ay ku raaxaystaan. aqoonta marka iyo afkaarta ka dambaysa jaamacadda rajada doogga waa mid fog. waxaana ka mid a maanta waxaan u kala fadhino inta arday ah oo Soomaali ah oo wiil iyo gabdho ah oo ka soo aflaxay, insha Allahna ka qaybgeli doona dhismaha dalka iyo dowladnimadeena haddii Ilaahay raali ka noqdo. anigoo ku hadlayo magaca haweenka Soomaaliyeed
waxaan idinku hambalyeeyaa inaad ku guulaysateen dadaalkii aad ugu soo jirteen inaad ka qalin jebisaan maanta jaamacadda. waxaan maanta idinla wadaagaynaa farxadda iyo reynreynta idinka iyo waalidiintii idinku soo tabcaya macallimiintiina. waxaan idin rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan iyo horumar. wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo kan golaha shacabka, xubnaha kale ee ka socda maamulka gobolka Banaadir, wasiirada heer federaal iyo maamul goboleed, sidoo kale xildhibaanada Hirshabeelle, xubnaha kala duwan magaca kasta ay ku fadhiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. sidoo kale waxaan mahad gaar ah u celinaynaa gudoomiyaha guud ee jaamacadda Professor Tooxow iyo ku-xigeenkiisa. intaan gudagelin ubuucda hadalkayga iyo ogolaada inaan mar kale aan u tacsiyeeyo mid ka mid ah macallimiinta jaamacadda Greenhope, Ustaad Faysal. waan jeclaan lahay inuu nala joogo, laakiin ilaah ayaa naga jeclaaday. anigoo ku hadlaya magacayga iyo kan ardayda maanta qalinjebinaysaba waxaan leeyahay macallin jannada firdawsa Allah kaa waraabiyo. marka xigta sharaf gaar ah ay tahay inaan halkan soo istaago aan ka mahad celiyo dadaalkii dheeraa ee macallimiinteena ay noo soo galeen. runtii wuxuu ahaa juhdi dheer, wado dheer, geedigii maanta halkan aan ku furnay, laakiin taas micnaheeda kama dhigna in halkan aan ku ekeyno. waxaan kula dardaarmi lahaa ardayda kale ee halkan ila fadhida in ay ku daraan mastarkooda kismoodhas maadaama baatnan aan la nahayna kaalintooda ay qaataan. maadada aan bartay ee criminology runtii waxaan u arkayay mid kaabi karta miinad hadda aan ku jiro oo ah saxaafadda. maadaama saxaafadda aan dhinaca kaga jiro waxaan u arkayay inay kaabi karto maadadii kore baashkii kale aan haystay ee mass media inay iskaabi karaan baahi kale oo bannaana inay tahay. marka si guud ahaan ayaa maadadaas u doortay. waxaan u mahad celinayaa dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan nala fadhisa, si gaar ah waalidiinteydii, asxaabteedii iyo cid kasta oo garab igu siisa inaan halkan soo istaago. si gaar ah aan u xiso Anfac Caadil Cabdi oo runtii ii ahayd walaal iyo saaxiib, markasta igu dhiirigelinaysa in maadadan aan barto. halkan maanta ila fadhisa iyadoo matalaysa xiro, sidoo kale matalaysa hooyadii, aabba iyo walaal intaba. waxaan leeyahay Anfac Caadil u mahadsan tahay. sidaad ii garab istaagtayna marnaba ma iloobi karo. waxaan ka dhabaysa ayaan ku leeyahay maamadii ahayd haddii geesi aan garab istaagsaneyn gabar guur ma gaaro. runtii guushaasna si gaar ah ayaan kaga mahadcelinayaa saaxiib qaali ah. waa mahadsantii runtii dareenkeyga lama qiyaasi karo. aadan ugu faraxsanahay maanta halkaan taaganahay iyo halkaan aan gaaray. si gaar ah xildhibaanada ayaan u mahadcelinayaa oo ii muuqda xildhibaan Yuusuf iyo xildhibaan Cabdullaahi oo saaxiibkeyga xildhibaankiisa Cabdullaahi Africa oo isku bahwadaad ahayn ee goobjoog. runtii xildhibaan waan ku salaamayaa. aad iyo aad baad umahadsan tahay. Bismillaahi Rahmaani Rahiim. ilaahay baa mahad iskale. waxaan salaamayaa dhammaan martida kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladan aan ku bogaadinayno kuna muujinayno in ay ardadan maanta dhammaysteen waajibkoodii koowaad ee waxbarashada. waxaan salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta heer federaal, heer maamul goboleed, bahda waxbarashada, saxaafadda, waalidiinta, ardayda, culammada iyo cid walba oo joogta meeshaan oo maanta ay keentay qof ama laba qofood oo kamidihii xafladan farxaddeeda la wadaagaya. haddaan nahay bahdi Greenhope waan soo dhaweynaynaa. abaal ayaanan ka haynaa inaad noo timaadeen oo na jiibteen waqtigiinana aad noo huraysaan. runtii haddaan nahay macallimiinta jaamacadda Greenhope waan afkooda ku hadlayo. waxaan ka mid nahay jaamacadaha dalka ku yaala macallimiinta ka shaqeeya. macallin walbana waajibka saaran waxa weeye inuu kobciyo maskaxda iyo caqliga iyo garaadka ardayga. innaga shaqadeennuna intaas ayay ku koobnaadeen xoogga saaraynay inaan ardayga u diyaarino mustaqbalka soo socda, innagoo ku beerayna cilmi ku dhisan aragti iyo xikmad. dadaalka aan rabnana inuu ka miro keeno dadaalkiisa. markii annaga uu naga soo wareegana wuxuu ku wareegaa bulshada. maanta waxaa la joogaa meeshii aan ku muujinaynay
in ardaydu inaga naga soo wareegeen ay ku soo wareegeen bulshada qaybaheeda kala duwan waxay ku soo wareegeen nidaamka dalka ka jira waxay ku soo wareegeen ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo cid walba wax tabcanaysa ciddii doonaysa inay wax hagaajisato ama wax qursato ama ay wax badsato waa inay u kaashataa ardayda freshka ee soo baratay cilmiga xooggoodii iyo caqligoodii mawdiyaadkooda intaa kadib runtii waxbarashadu waa tiirka ugu muhiimsan tiirarka nolosha bini aadamka dhisa kobciya isla markaasna qurxiya waana meesha ay tahay dalkan intii ka halowday in laga hagaajiyo dayactirka aan dayactirayno guryaha iyo laamiyada waxaa ka muhiimsan inaan dayactirno dadka quluubtooda maxaa yeelay laamiyada iyo guryaha waxaa markii horeba burburiyey dad quluubtooda wax ka qaldameen sidaa daraaddeed haddaan doonayno inaan dalka hagaajino waxyaabaha xoogga inaan saarno ay tahay waa inaan waxbarashada aan xoogga saarno oo aan dhisno intaan heli karnaano hor waxbarashada dalka ka jirtaahi jaamacaduhu way wada dhigaan culumta qaarkeedna gaar bay u tahay jaamacadaha qaarkood jaamacaddaanu waxay si gaar ah runtii ay jaamacadaha kale uga duwan tahay takhasusyada ardaydii meeshan soo istaagtay cilmiga ay ka qalin jibiyeen ee culumta kasma cilmiyeedka culumta baarista dembiyada iyo amniga oo lagu yidhahdo afka qalaad criminology and security studies oo ah runtii jaamacaddaanay gaar u tahay waqti badanna waxaa geliyey maamulka oo aan xasuustaa markii la bilaabay fasalladii ugu horreeyey lagu bilaabay sida lagu soo meelmariyey waxaa fadhiya arday kala duwan oo hadda aragteen xildhibaano iyo isugu jira oo ka soo baxay oo ka qayb ahaa qaybtaa wax ka bartay waxyaabaha aan u baahannahay ee hadda dalka aad aragteen ka socda dunuubtii way soo badatay hadda sidaad muuqataan hadday ahaa laheyd dembiyada sida abaabulan loo fuliyo iyo hadday ahaa lahayeen dembiyada dadka caadaystayaasha dilku ay inta badan sameeyaan ee carruurta lagu dhibaateeyo ama haweenka iyo dadka inta badan tabarta daran aan isdifaaci karin haddii aanan qaab cilmiga waafaqsan u abbaarin baarista iyo tabaantabinta arrimaha noocaasi waxay keenayaan qalab waxaana ka dhalan doonta inuusan mushkiladii aysan istaagin ee ay sii jirto siina socoto kulliyadda aan anigu hoggaanka ka ahay ee culumta baarista cilmiyada cilmi baarista dembiyada iyo amniga waxay xoogga saaraysaa waxa weeye in si waafaqsan sharciga dalka u yaalla cilmiga sayniska uu raalli ka yahay in loo baaro isla markaasna loo cadaalad mariyo ciddii arrintaas shuqulka ku lehay waxaa runtii farxadii ah maanta garsoorkii dalku inay fadhiyaan saaxiibkay aan u jeeday guddoomiyihii maxkamadda cabdiqadar oo aan xaafadna iskula soo kornay masterna aan isla diyaarinay inaan u sheego iyaga iyo mas-uuliyiinta kaleetoo joogta in loo baahan yahay in cilmigan hadda ay jaamacaddu sida gaarka u bilowday laga faa'iidaysto oo loo gudbo in qaab cilmiga waafaqsan lagu xalliyo mushkiladaha jira ee hadda soo ifbaxay waxayna muujinayaan soo bixista mushkiladuhu in daawadii loo baahan yahay annagu haddaan nahay green hop waa diyaarinay daawadii waa taa halkaa fadhida la wareega oo mushkiladii ha lagu daaweeyo waxaa intaa soo raacda jaamacaddu waxay ka mid tahay jaamacadaha dalka ka jira kolleyba jaamacadaha dalka ka jirana waad ka warqabtaan runtii duruufo adagaa lagu shaqeeyaa hadday ahaa laheyd qaybaha kala duwan ama ha ahaato duruufo maaliyadeed ama ha ahaato duruufo amni oo ad ogtihiin aad ka warqabtaan sidaasay tahay cilmigu wuxuu ahaa inta keliya ee aan istaagin ee dalkan uu ku badbaaday dalkan wuxuu ku soo badbaaday 30 sano inta hartoo caymatay waxay ku caymatay cilmiga oo aan joogsan laga bilaabo dugsi quraanka iyo iskuulaadka iyo macaahidda oo aan istaagin iyo hooyooyinka oo dhabarka xirtay oo xitaa haddii aabihii dhintay booska aabaha buuxiyey labadaasaa lagu soo badbaaday halkaa lagu soo gaaray maanta inta la hayo marka waxaan xoogga saaraynaa waxay tahay in aan ka shaqayno in ardaydaana aan u samayno takhasuskii dhammaystirka ahaa kuwa soo socdana aan cilmi cusub cilmigii barno haddii ilaaha yidhaahdo aakhirka waxaan ku dardaarmayaa ardada kula dardaarmaya idinkan farxadda in la wadaagaynaa runtii cilmigu in lagu toobad seego ma fiicna anigu sidaan qaba aragti ahaan
ardaygu cilmiga oo bartay inuu ku shaqeeyo oo ludda iyo lafta u dhaabiciyo oo cilmiga uu qofka maskaxdiisa ku dego ayaa muhiim ah intaad takhasus barato oo hore ka orado haddana mid kale baratood ka sii baxdo fudaydka noocaasa waxaa ka fiican cilmiga hadda aad baratay ee aad qaadatay inaad isku daydo inuu lafahaaga galo waa meeshii nebigu ku ducaysan jiray sal allahu calayhi wasalam ilaahu cilmi naafica nasiiba cilmi manfac leh cilmi naaficana macnaheedu waxa weeye cilmi qofka xambaarsani oo fahmo kana muuqdo waa korkiisa iyo ficilkiisa intaba waxaad xoogga saartaan marka cilmiga aad barateen in aad lafihiina u daadejisaan markaa kadib oo intaasu ay idinku maaragtay idinku fiixdo waxaad u gudubtaan markaa kadib badintiisii iyo siyaadintiisii aad iyo aad mahadsantihiin waad inii hambalyeynaya farxaddan waan la qaybsanaynaa waadan idiin ducaynaynaa haddii ilaah yidhahdo cilmiga ilaahay ini barakeeyo xaqan ilaahay hana fahamsiiyo assalaamu calaykum dhammaan ardada qalin jabinaysa iyo waalidiinta qof walba mansabkiisa iyo magaca uu munaasabadan uu kugu casuumayay ayaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaam kadib runaantii maantay waa maalin qiimo badan waa maalin qulubteena ku weyn waa maalin uu dareemi karo qof wadadan u soo socda ama wadadan soo maray oo maalintaan oo kale stageka aan taaganahay soo istaagay waxaan uga mahad celinaynaa waalidiinteenna iyo qof kasta oo garab nagu soo siiyey khaasatan waalidiinteyda hooyaday aabbahay walaalahay iyo waalidiinteyda dhammaan oo isku duuban ayaan uga mahad celinayaa marka xigta waxaan uga mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Greenhope University oo juhdi iyo dadaal dheer nagu soo bixiyey in aan maalintan quruxda badan hortiina aan imaano runaantii waxaan ku xumahay maanta inuu nala joogin ustaad Faysal Cabdi Maxamed Faysal Magan ilaahay subxaana qaadir watacaala u naxariisto qabrigiisa ha u nuuriyo runaantii intii aan jaamacadda dhiganayay semester uuna maado ku lahayn ma soo qaadan qaadatan markii aan buugga qoraynana supervisor ayuu noo ahaa tiimkayga aan ka mid ahaa waxaan leenahay qulubteena iyo qalbiyadeena ayaa baaqi ku ahaan doontaa barnaamij yar laba xaba ayaan ugu talagalay jaamacadda Greenhope maadaama maanta ay maalinteeni tahay waxaan mahad celinayaa sidoo kale qof walba oo maanta nagala qayb qaadanaya maalinteena weyn oo nala weyneynayo waxaan leenahay waa mahadsantihiin qulubteena ayaad ku ooli doontaan barnaamijka sidatan ayuu dhacayaa Greenhope hogaankii waxbarashaday Greenhope hogaankii waxbarashaday ubax soo saara hormar ubax soo saara dalka iftiinkiisa shida ubax soo saara dalka horumarkiisa kaba jahliga la dagaalantay iftiinkii dalkay jahliga la dagaalantay iftiinkii dalkay oo maamul iyo macallimiin go'aankoodu yahay oo maamul iyo macallimiin go'aankoodu yahay inay maanta dhalinyarada aqoon ku shubaan inay maanta dhalinyarada aqoon ku shubaan ayaa heegan idinkugu ah bulshayahaygu ayaa heegan idinkugu ah bulshayahaygu Greenhope halliin oo gadaal ha marin Greenhope halliin oo gadaal ha marin وما كنتين فرحة لما يأكل وحنا قضينا في شيطان كهذين آدم ما كنتين فرحة أي تهاي مانتا إن أيضا كرسوا قبله بهذا Greenhope قليل جبنتا أرديدا لبدا هير ماستر كي باجلار كوا إنكسو أن إذا كانوا عذر دارنا بلن كلو أن لها إلي هرمري واجعل إن أيضا لجوله وحاربا أرديدا وقتك أدك سو مرتي oo aan ognahay wadanka iyo xaaladda ku jiro wax ku soo bartay maanta maalintiina waa idin kula faraxsanahay inaan idin kala soo qayb galno dadaalka aan muujiseen iyo kartidiina oo maanta oo kale aad ku soo gaartaan sidoo kale jaamacadda Greenhope gudoomiyaheeda oo aad wada garanaysaan bahda waxbarashadan ee taqaano professor Toxow asagana waxaan u jeedinayaa mahad gaar ah iyo waqti adag oo dalkan ka soo saaray oo soo kobciyay garaadka iyo waxbarashada dalka
sidoo kale jaamacadda partnerka la ah oo u fududeysay ardayda Soomaaliyeed oo heerarka kala duwan mas'uuliyiin iyo shacabka in ayagoo dalkooda joogo ay ka qalin jebiyaan heerka labaad ee waxbarashada welina jaamacadda ay section oo gaar ah ay aad uga shaqeyso oo idin sharxayay macalinkiina kaas oo ah security oo anaga dalkana xaalad adag oo ku jiro aad ogtihiin iyo baarista waxaan kaga mahad celinayaa dhabar adeega guud ahaan jaamacadda maamulkeeda iyo ardaydaba ay soo gaarsiiyeen arday tayalana ay soo saareen waxaan leeyahay hambaliyo dhammaantiin ka wasaarad ahaan anaga wasaaradda howlaha guud aan nahay waxaan jeclaan lahaa kuliyadahana inaad kusoo dartaan kuliyadda oo injineeriyada maadaama dalka labada sektor dib u dhis oo ku jiro oo aad arki kartaanba tiyaatarkan marka hore sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay in kuliyadaasna maamulka ay iska saaraan wax gaara ama juhdi gaara ay geliyaan si ay u soo saaraan maadaama amnigii labada sektor oo dalka ugu muhiimsan dib u dhiska iyo amniga waaye labada amniga waa haysanaa oo waa haysaa in sektorkii kale oo dib u dhiskana aad ku darsataan waa idinkaga mahad celinayaa dhammaantiin waxaan leeyahay ardayda qalin jebinaysa hambalyo waxbarashadu ma lahan meel ay ku dhammaato ninkii maanta bajularka qaatay fursado badanaa u furan masterka fursado kalea u furan meelna kuma dhammaatay inta aad jirtaan oo aad nooshihiin waa idinla soconaysaa waxaan kaloo rabaa in aan tacsi u diro macalinkii oo macalimiintii ka mid ahaa waqti dheerna idin soo geliyey asagana ilaahay oo raxmado waa mahadsantihiin dhammaantiisa. Dear students, dear colleagues, His Excellencies, honorable members of Parliament, it is another beautiful year that I stand in front of you. 5 years back, I initiated this great partnership between Kesmont International University and the Green Hope University. Over the years, we have grown in strength. We have grown in student population. We have grown in productivity workforce globally. It is with pleasure that we introduce to you Kesmont International University, founded with a campus in Cameroon, authorized by the Minister of Higher Education, with international accreditations from the United States, and equally a member of the Association of African Universities. It is a great pleasure for us today that we talk to you on behalf of this great institution that has set up this wonderful partnership. We have over the years trained more than 150 students from Somalia, which is a great pleasure for us. That 2 days back, as I walked past the town, I could hear some students call me, "Professor, welcome to my country." It was a very great pleasure for me that I already have my students in the streets of Somalia. Some of them work with the Ministry of Public Health. Some of them work with private organizations. And our partnership has grown to the strength that we have started sending students out for training and internship. I would like to invite Abdisalan. Could you stand up if you're around? Abdisalan at the Sudan, if he's in the hall, one of our students who went for internship in Muyonu Hospital in Kampala. So we have decided to not only train students through distance learning and they stay in Somalia, but we've created a network for our students from Somalia to move to Cameroon, Uganda for internship opportunities and training. And this year we are looking forward to sending at least 10 students from Somalia for training in Cameroon. And I came to this event with 2 colleagues from Cameroon, Dr. Jibril Yoruba, who works with the World Bank Development Project. He's the Assistant Manager for Healthcare Structures in Cameroon, and he defended his Doctor of Philosophy in Public Health with specialization in Health Quality Management. Welcome, Doctor. And with me also is Dr. Simon Joachim Numa. Simon works as internal control for the Bank of Central African States in Cameroon.
He defended his PhD in international relations and international political economy. He is a political analyst and an economist. So these are PhD students from Cameroon. Last year we graduated a PhD student from Cameroon was appointed in the Faculty of Medicine under the State University of the Government of Cameroon. So our students from Cameroon work with very high profile organizations and high profile offices. These are our students, and it is a great pleasure for us to have them here. So we would like to notify you that this year we are giving 10 scholarships to the students of Somalia, fully funded to the tune of $50,000. So I will invite the president of Green Hope University, Professor Hussein Toh, to issue these scholarships to the students of Somalia, to the people of Somalia, indiscriminately. This is fully funded programs for master's degree and PhD. So if you are in this hall and interested in any of the programs, table your application to Green Hope, because the sponsorship has been approved for 10 students from Green Hope University. So you can as well. Don't limit yourself. Do not let people think that your background has something to do with your future. Education is all you need, and it's going to take you wherever you want. I've been to 22 countries. I have a flight to catch tomorrow. I have a meeting in Lusaka, Zambia. I travel all the time because of the purpose of education. And you can as well. I like to encourage parents, educate your children to the fullest. Be it a girl child, be it a boy child. Everyone has the right to quality education, and Somalia is a great country that supports the value of education. I want to thank the Ministry of Education. I want to thank all the parents that have sacrificed to see you succeed today. As you go out there, the star is your limit. Do not limit yourself to your environment. Do not limit yourself. Try to bring the values of what you've learned in school out there. Don't expect that the government is going to recruit you tomorrow. No. Use the things you've learned in school. Become entrepreneurial. Practice the skills you have. I thank you very much, and I pray that this partnership between Green Hope University and Kesmos International University grows forever. Long live the Ministry of Education. Long live the Federal Republic of Somalia. Thank you. Dhammaan mas'uuliyadda heer federaal iyo heer dowlad goboleed, dhammaan maamulka jaamacadda Green Hope iyo jaamacadda kale oo wadaagta leeyihiin, waalidiinta, ardayda, marti sharafta kale, bahal saxaafadda, dhammaantiin qof kasta oo halkan fadhido, maqaamkay ku fadhido, ayaan ku salaamayaa salaanta islaamka. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد سلام معلومك جامعة جرين هوب يرى ما تحفل ده موفق اليوم دفعات السجالات وجهرين يجا قدومه سلام ديران يهمبليو عن إنك جوده جاسمه جود جاسم محبرشة الدول كبنادر مضانع عبد الرحمن عمر شيخ نور. run ahaantii markaa kasoo gudbo fariintaas maanta aniga farxad ayay ii tahay inaan qayb idinkala ahay xafladda tan qiimaha iyo qadarinta leh. dhammaan ardayda iyo maamulka jaamacadda Green Hope waxaad maanta isku hesheen laba fursadood oo ah in dufcadda sagaalaad ay nasiib u yeelato in tiyaatarkii qaranka loogu dhigo xafladooda dabaaldegga ah. sidoo kale oo maantana anigoo matalaya gobolka Banaadir aan qayb ka ahay xafladan oo dufcadiina ay nasiib u yeelatay in xafladan qiimaha iyo qaayaha badan idinkala soo qayb galaan. marka muslimiinta iga horeysay hadal oo dhan waa la dhameeyey, hadal badan iima furna. mahad waxaa iska leh allihii idii suurageliyey guushaan aad maanta joogtaan, allihii idii fududeeyey inaad marxaladii adkeed aad soo adeegteen in maanta heerkan soo gaartaan. mahadda labaad waxaa iska leh waalidkiina
oo idin geliyay juhdi iyo maalgelin fara badan hambalyo saddexaad waxaa iskale maamulka iyo jaamacadda Green Hope waayo jaamacad sideedaba waa goob waxbarasho oo lagu tareegareeyo maskaxda bini'aadamka maanta waxaad tihiin dad meel fiican soo gaaray waxaan idin rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan idin rajaynayaa in dalka iyo dadka Soomaaliyeedba ay ka faa'iideystaan aqoontan aad soo wadeen in muddo ah laga faa'iideysto insha Allah waxaan ana si gaar ah halka ugu salaamo ustaadkayga qaaliga ah oo maanta kamida macallimiinta jaamacadda Green Hope al-ustaad Maxamed Muuse Mataan sida idinka macallinkiinu ahaa ayuu aniga macallinkayga ahaa jaamacadda Soomaaliya UNESCO oo macallin igu leh afar maado isoo dhigay ustaad Mataan waan ku faraxsanahay maanta inaan isku aragno xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ugu dambeyn waxaan idinku dhiirigelinayaa ardayda qalin jabisay in cilmiga aad barateen juhdigii idinla soo geliyey aad dalka iyo dadka Soomaaliyeed dib ugu celisaan dalkan waa dal burburay dhibaato badan gaartay idinkan idin baahan marka aqoonta soo barateen oo akhbaarista dambiyada oo dalku aad ugu baahan yahay waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad dalkii dadka uga faa'iideysaan laakiin salaan xaqiiqnimo waa iga diyaar saddex soo dhawo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xubnaha golaha wasiirada halkan maanta xafladda nagala jooga maamulka iyo macallimiinta ardada ee jaamacadda Green Hope ardada maanta qalin jabinaysay kuwii hore u qalin jabiyey howlwadeennada xafladdan بعد صحافة والدين iyo martida kale ee maantay xafladda nagu sugan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haddii uu jiro qof aan ka tegay mansabka meesha ku fadhiyo raallaha laga ahaado macallimiinta iyo maamulka jaamacadda waan uga mahad celinayaa in maantay ay uga casuumaan inaan halkaan soo istaago oo hortiina ka hadlo muujiyana dareenkayga ku saabsan xafladdan maanta qalinjabinta ah waxay kale tusinaysaa xushmadda iyo qiimaha ay jaamacaddaydii aan hore uga qalinjabiyey hayso in dalka gudihiisa wax ku barato aad ayay muhiimad buuxda u leedahay ciddii dhaliilsanna ha ogaato in ay jiraan kumanaan iyo kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo gudaha dalka wax ku bartay isla markaana markii dibadda ay tageen ku anfacay wixii gudaha ay ku barteen sidoo kale maanta mas'uuliyiinta halkaa ka qudbeynaysay mas'uul walba angalka uu dariiri uu ka fiiriyey aniga ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo afkiisa ku hadlayo angalka aan ka fiirinayo oo mar walba qulubteena taabanaysa waxay tahay maadada criminology and security studies oo jaamacaddan ay bixiso iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed ee uga aflaxday loogu arko fagaarayaasha shaqooyinka iyo goobaha kale ee ummadda loogu adeego balqiyaas inta maanta hoolkan la fadhisa iyo sida maamulka jaamacaddu sheegeen difcaddii sagaalaad ee jaamacadda Green Hope maanta ka qalin jabinaysa iyo difcaddii saddexaad ee masterka jaamacadda heshiiska la ehay Kismandos intaas oo difcadood oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo aan waxba baranin oo aan fursaddan helin culays intee la eg ee amni darro culays intee la eg ee dhibaato ah ayay ku hayn lahaayeen bulshada haddaysan dhalinyarada maanta hortiina fadhisaa wax baranin waxay tusinaysaa in door aad u qurux badan jaamacaddu ay ka qaadatay doorka bulshada iyo waxbarashada heerkiisii sare ee jaamacaddan ay noogu jirto waxaan kula talinayaa ardada maanta qalin jabinaysa wixii aniga hore laygula soo taliyey waxaan idin ballan qaadayaa in aysan ahayn markiina ugu dambayso aad waxbarataan haddii aad diyaar u tihiin aad si fiican wax usii baran kartaan inta dhaliilsan in gudaha dalka ay wax ku barteen oo ay waxbarashadu aysan ahayn meel
dhammaad leh oo ay ku eg tahay maanta jaamacadda maadada aad qaadatay keliya laakiin aad haysataan fursad aad hore ugu sii socotaan cilmiga aad barateen dartiis iyo maadadaas technology-ga waxaan idin ballan qaadaynaa kataliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ahaan oo afkiisa ku hadlayo iyo taliyaha ciidankaba marka ku talagallada aan qaadano oo xubnaha ciidanka ah aan qaadanayno ama saraakiisha dhalinyarada iyo ardada maadooyinkan iyo facultygaas bartay inaan tixgelin gooni ah siino marka aan ciidan iyo saraakiilba qaadanayno waa haddii ay u qaadaan ugu dambayn maamulka macallimiinta iyo waalidiinta iyo cid kasta oo maantay ka soo qayb qaadatay in xafladan goobtan maanta la joogo la isla soo gaaro waan uga mahadcelinayaa dadaalkoodii iyo garab istaaggoodii dhallinyaradoodii iyo ardadooda si qaas ah jaamacadda Green Hope oo anigu horay aan uga baxay facultyga Criminology and Security Studies waxaan caddaynayaa in duruusta iyo waxbarashada jaamacaddaas laga qaato aysan ka level hooseynin ama ka hooseynin jaamacadaha kale ajaanibta maxaa yeelay anoo jaamacaddan wax ku bartayna dalka gudihiisa wax waa ku bartay dibaddiisa wax ku soo bartay marka wixii halkaan aan uga bartay marka aan fagaarayaasha caalamka la tegay waxaan idiin sheegayaa inaysan ka liidanin goobaha caadiga ah wax lagu barto isla markaana jaamacaddu ay buuxisay door aad muhiim oo naga mahadcelinayno si kaliya laaba ugu dambeyn waalidiintii carruurtooda kusoo dhabar adeegay una ogolaaday inay maanta halkaas soo gaaraan waxaan leenahay waalidiinta hooyo aabba waa mahadsantihiin ilaahay baa abaalkiina gudi kara jaamacaddana mastarkeeda laga faa'iidaysto oo waxbarashada horaha la soo wado waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u fadhinaa maanta inaan dhahno ardayda ka qalin jibinaysa jaamacadda Green Hope iyo jaamacaddan kale ee partnerka la ah ee Kesmon International University KIU oo bahwadaagta la ah dufcadda sagaalaad iyo dufcadda saddexaad halka ka qalin jibinaysa inaanu u hambalyeeno inaanu soo dhaweyno inaanu farxadda la qaybsanno inaanu dareenkeena aanu muujino inaanu garab taaganahay waxaan leenahay ardayahay hambalyo soo dhawaada waqti badan baad waxbarasho ku soo jirteen waqti badan baad soo dadaalayseen maanta waxaad taagantiin maxaan ku iraadaa graduationkii maxaan ku iraadaa heer bachelor iyo heer masterba waad taagantihiin sida asxaabtii iga horreysay u sheegteen waxbarasho ma dhammaato ee qofkeedaa dhammaado in fact way socotaa qofba meel buu uga degaa waxaa kaloo aan tusaale qurux badan u qaadanaya jaamacaddan Green Hope juhdiga faraha badan ay soo samaysay oo ay soo gelisay ardayda dalka muddo badanna maxaan ku iraadaa shaqaynaysay inay ka tirsan tahay jaamacaddani oo ay ka haysato registration diiwaangelin aqoonsi ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare taas waa caddaynaynaa mar koowaad iyo mar labaad haddii ay jirto mugdi waxyaabo yaryar oo jiray waxa weeye sida ardayda loo imtixaamo grade kasta ay joogaan jaamacadaha imtixaanka looga qaado grade kasta ay joogaan technical ama farsamo jaamacadahan ayagana waa loo maray maxaan ku ihahdaa baaris screening dabagal howlaha waa la mariyaa macnaheedu ma aha marka in laga tegay jaamacaddii laga tegay ma aha wasaaraddu waxbay barbaarisaa waxbay kor yeeshaa ardayda way dhistaa jaamacadaha way dhistaa dugsiyada hoose way dhistaa ma dulmiso kamana tagto jaamacad levelkeeda heerka oo marayo oo aan markaanta aan u baahnay waxaan caddaynayaa marka wasaaraddeedu maxaan ku ihahdaa jaamacaddan ay la mid tahay jaamacadaha ay garab taagan tahay waxyaabaha yaryar oo technicality-ga ah oo u baahan maxaan ku ihahdaa toosinta u baahanna wasaaraddu ay la toosinayso ay la saxayso diyaar ay u tahay 24 saac iyo goor waliba intaa markaan ka gudbo farda laysu haayo kolba ammaan maxaan ku ihahdaa laysuguma faano waxaa halkan ka muuqanaya oo jaamacaddan Green Hope bannaanka ay soo dhigtay inta ay shaqaynaysay oo levelka kala duwan ee waxbarashada ay ku jirtay in arday fara badan oo khariijiinaha ay soo saartay oo ay ka mid tahay sarkaalkii hadda halkan taagnaa
وكل هذا المقع عيدا كبوليس كفاينكا وأوفيشال سوبريور superior level سراكيش وحاول level inferior level superior superior level inferior level سراكيش سبسروا كجرا وعسوساري وجامعة الدنيا ما أرسل كلام سيدو كلام محكمة على الكلام كلام فرجوا وكتجي رالي هذا دي كتجي ومعاك وتجد وقالي غير هذا كل الدول جامعة محكمة السرع وزارة كل الدول ومعاك هذا وزارة الجديد وكم ده معاك الدكتور جلال هذه الفريق والصعود وماستر وقلب جبنا مانتا سيدو كلام معاك هذا المعمول قبل هذا سيدي معاك هذا حلبان كان اليوم كلام هو كل وين ولا هو فارق كروي طبعا يكرر الجامعة ده من مثل الرئيسي أما محمد هذا كل إذا الجامعة ذا كلام بل إنه هو الرئيس الجمهوري مرة بعد مرسد حاد وقت هو أسبوعية وحن إذا لقى يبصرنا كم باليدا وحن إذا لقى يبصرنا فرحة دين الدماشات كنا وأنا دي سوق ويننا أنت عرفوا حنقول فرنا وحويننا اللي متجبن وهذا كيسان دفعديه كهر النوع والبي كسر بحان دفعدا هذا كرب حيسانا والنوع والبي غير كسر بحيان أما سراكين سرها نقطه أما قدوم المحكمة نقطه أما دريتور دينار نقطه نوع كست أو بلشوا أي كوشة كيسا أوردن المحكمة ولا لجهريه أو أي جامعة داني سوسارتي سداس درت صور هذا هاي من جبننا جامعة دينو سيدي محكمة ولا حدان كوربوا هذا الكعرب ودفتي هاي سديد جامعة وحال الديوان قال لابد يكون اللحدي وجامعة الرئيسوة مركاتي هذا الوضع هيستاج تدي ما أنت بنجوكتا سيدو كره وقدمينتي قوليها زائرين أمنا سوز زيارتي جامعة الله هناك تفارت من كلاه كيسمون يونيفرسيتي النوع تمد محمد هذا وست أفريقيا والبيت أفريقيا النوع تمد وحنا لنا هذه كل سنة هذا دلك ويدي باهي ودلكيني ويدي فريهي سيدا جامعة محمد الله ولا تولتين أرضي بلد سوسرتانيا رجينينا أرضي اللي سيدا كعن قبل جرتنا كعن قبل تين بلد رجينينا كوزارة وحبرشوا إيدي تعليل سراهان أنه واحد الله هاي welcome سود هذا جامعة فرنك سود هذا إن شاء الله تعالى هذا كفران مايو مرة المرصد حاد جهد اللي سود من الدبان هذا فرقيان وزيرنا نوع دون محمد غلامه مرتلا ودياشة وعلى الله يسوع هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله سبحانه وتعالى من الماضي اسكله قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى ما نسكله مرة لبعض وحاولوا علينا يا لما معلمين بدونك جامعة ما أنت عن وجود حفلة دي وينت أرضي كسر قليل جبستي دفعتي سجالات ويكون هاتسينهين لما الوالدين الصوماليين انت الأبد وما انت ماشي على قبضه وأيضا تبادل سوء قليل بدلشين التعي أيضا ويكون هاتسينهين وقت عن الجولو حالة ابن ذلك ما انت تاجنتهاي إنه وصل دبر عاديين ويلشان يجبان قروح بدمان تهرتين فلذا يعني سوق رسين هيرك ما انت تاجنين مر لواط يمرسد حاد ومبعد علينا والدين الصوماليين انت امرك الوجود بمهد علي يعني وحن كمد هاي dadkii ka qalin badashay jaamacadda maanta xafladda dhiganayso baajka labaad yani filliga walaalkay sadiiq duudusha iskala baxnay criminology and security studies farxada gaaran intaan maantana kasoo qayb galo oo intaanu arday la qaybsado farxadda annaga shalay markaa qalin jibinayn farxaddan iyo weyninkan maana haysanin filiyadii ugu horeeya ku jirna dadka ka baxay maanta idinka waxaa ugu duwan tihiin xilliga aniga qalin jibinayay
tiyaatarkana laguma dhigin intaanu mas-uuliyiin horteeda ma fadhinin marka waa farxad gaar ah inta maanta inaan kasoo qayb galo macallimiinta iyo diinka kulliyadda matan asagana waxaa waaye maadaalin gaar uu leeyahay oo maanta aan dhihi karno fildigan inuu meeshaas soo gaaro dadka sababteeda lahay oo ku jiray ustaaduna mahadsan tahay intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo maanta jaamacadihii dalka aad u fara badan yihiin ardayo fara badan oo qurux badan ay soo saarayaan bedelka maanta intaanoo jaamacado xarumo ay ku leeyihiin magaalada muqdisho gobolada dalka hadday ahaan lahayn ka warama xarumo ciidan oo isbaarooyin iyo jagboontiye iyo meelo laisku baado dadka lagu dhaco dhibaatadeena halleed marka kullama dhalinyaro wax barata la helo dalkeena sida la qiyaaso percentage ahaan 57% iyo wax ka badan waxaa lahaa dhalinyaro waay waxaana ka dareemi kartaa hoolka maanta dadkaas u jeedaan haddayna wax baranin waxay ku mashquulayeen yacni qof kasta inuu dalka dhibaatadiis qayb ka noqdo laakiin maanta waxaan ku faraxsannahay markaa ka hadlayno dhinaca amniga qayb weyn ay ka qaadanaysaa shaqo la-aanta qayb weyn ay ka qaadanaysaa intaan waa arday maanta haddayna loo sameynin waxbarasho ay ku horumariyaan noloshooda innovationka maanta la sameynayo dalkii shaqo abuur badanaa laga sameynayo businessyo gaar loo leeyahay intaba wax ka shaqeey waa dad wax barta haddayna la heli lahayn waxaa dhici lahayd in yacni culeysaad badan oo imaado bofartiga lagu sheego yacni wadamada hadda soo koray hadday yacni shaqo la-aantii kusii badato culeysaad badan ay sii yeelanaysaa taasna waxaa keenayso waan ugu mahadcelinaynaa jaamacadaha soomaaliyeed ee ugu horeyso Green Hope University wasaaradda waxbarashadana waa kaalin fiican ay ka qaadanaysaa jaamacadihii iskuulaadkii maanta heerkan soo gaareen oo si private u soo wadeen muddadii burburkii dalka oo soo maray ayagana waxaan rajayn doonaa inay la jaan qaadi doonaan jaamacadaha iyo iskuulaadkii muddadaas kusoo dhaban adeegaya oo 20 sano ku dhow maalin hore waxaan arkay liiskii arday jaamacadaha ruqsadsiinta ee wasaaradda waxbarashada horta waa la taliyaha uu mahadsan yahay oo yacni wuxuu ka dhawaajiyey inay liiska ku jirto jaamacadda Green Hope laakiin isma dhehinin Green Hope dib loo yara dhigayaa waa jaamacadda ugu horeysa liis ku soo baxday aaminsanay professor Tuumo Garlaasi wuxuu ku jiraa dadka ay ku faanto bahal waxbarashada marka la fiiriyo marka taasna waxaa rajayn doonaa wasaaradda waxbarashada inay xoogga saarto culeysaadka yacni maanta jaamacadaha gaarka loo leeyahay ay sameeyeen oo usoo dharan adeegan inay ku dhiirigeliyaan yacni ay garab qabtaan aan rajaynayna insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamulka mucallimiinta iyo ardayda iyo howlwadeenka dhammaan jaamacadda Green Hope bahda saxaafadda dhammaan intii halkan ka soo qayb gashay magaceeda aanan xusinin mar labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سلام دولات كنتي الله يعلم سبحانه وتعالى نقول مية مكان كان هو ينين أيو فضل جاء أي لا ده هاي وحبر شدو مكان كان أن كقيمين إنه كشرف إنه كسجوتين إنه كدير جلين إنه دفع سجارات تقل جمسي جامعة جرين هوب فعلا رنتي أنا وحنا هاي مسؤول أو مسؤولين تسوماليات كمدا فمعنا المتلايا مجا هالكان فريدا إيو مجا عمدا الصوماليات وحنا نقول أن هاي همبليو 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 بصفة خاصة مع والد أنا كمدا والدين تا أقدر أقول جميل سالكان أدانا مرلبات همبليو 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 يعني كنت جامعتنا وهي كم تهاي جامعتها قيمها بدن وطنك وقتيدي قدام بي كشغينا يرجعين توخبر الشدة يهنا جيل وخبر الشدة حنقابسن كادر أقولهن صوصات تكون مشغول سنة أي كم تهاي وأنا ما هاد علينا ونقول إنما قلنا معايا لي جهل يقول وهدان ووحدمية
علمنا ودسها وحدسها قفك أقول لي قفك أقول لي اسم درجة معهم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولي الألباب قفك علمك قفك العلم قال هين ما كنا بمسلم التران اسم درجة من نغفر يرفع الله الذين آمنوا منكم ومضى أهل الإيمان كإله الدرجة أيوب قريالي والذين أوتوا العلم درجات انت علمك لسينا درجات أي أولي الله سبحانه وتعالى وحقيقة نبغينا مرة وليه أطلب العلم من المهد إلى اللحد برشدة لقنوه ينادي ووضعها هي يعني مرة عن يرى تكسر بالله ولا تجريون يسوى الله بهاي ووحنا لقطع واجب يلوتها طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ويل كست جبر كست برشدة هنا يخبرتها الواجب أي قطعي اطلب العلم من المهد إلى حتى ما يعرفوا كانوا غير برشدة إنه هجرة أي الله وإله الفضل جيس أمضى إلى الصوماليات هنا تاي بقول كيف بقول أمد مسلمة وإله الفضل جيس إن أمضى إلى الصوماليات تاي أهل القرآن لبضك يا فريق طبعا أيام من دعاء إسلام كمدة وعامة أيام وحنا كلنا إسطنبول مركا صوماليات هاي وكفر أحسن هاي وجود ما قرنا يساه وجود سببت إله الكتب باقي صوماليا الدولة دي أيضا مكن الدولة الآن إن كبدن ربع القرن دولته ضعيفة وحي إلهي كبد باقي صوماليا لنور يهين ولما لا يهين ومقعود عام وتكتن الله مقرنه والوحي فإليان لدقي الشيخ محاضر هذا الشيخ العالم كهذا وعود صوماليا وأم القرآن وهو يدد القرآن كان الدين كهذا دعاء المسلمين أنا أساسا نغنى تاس أيان إلهي كبد باقي سبحانه وتعالى أو يسوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام البيت الذي يقرأ فيه القرآن قرأ القرآن كالغو أخرنا يكثر خير وحابدنا يا خير كأياك بدنا يقول حكومة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويوسع أهل كيسنا وحالسين يعني إلهي عليم قلما يا رجال عليم قلما وتحضره الملائكة ملائكتنا وصح حاضره النبي عليه الصلاة والسلام بيت القرآن كالقرآن وتهجره شياطين وكعرريسا وحنا تقدموا ويسن وقرآن بفضل كتاب الله آيات ما تقدموا ويسن وحقيقة عالم ما القرآن الكريم كسيدة أنك الوضع حفظي صومال الوضع حفظيها مجرد فعلا وحلا مجاسية وزارة الدين وقافت وعلى الكوب بشارين إن الكوب يدرتو عبور تيار القرآن الكريم كأخبارته صومالات بقى كذا وورقتان أرض يقول القرآن وكحف دي وسيدة بدل السكول كأبو بمايا دون كنا وحولي بيس أيوة بالله هيبة وقرآن كاس وبرنا يلفت بيس يا بقى قوت تبو خير كبدل الأول أكسنة إن قلت هذا السيو إن ما ركيب بيسكي والوجود مايو إن منهج جار واصل مايو إن مساجد يلا إيه دكسية القرآن فعلا دكسية القرآن كورقتان سكول ذا ولا دريلا وأرضي ولا بسا أرضي وحا مرتي سيدا أولا أحسن وكم كام كلا وكم كام سكول كوسعده كراس باوتالا مركي أو دكسية القرآن كوهذا يعني دريلا وحالو إيبا أولا أحسنين دكسية سيدا بدل ما دريلا وضوين يالا أود لما لسي سكول كلام سنين وحيالها عن كفني وعن كعويني وصنوات كان عقودهم هاي ستايا دكتة يا رجال كلام رب العالمين إن كرامينا أنك أياك صرفوا بينا كنا كرامو بينا أصله وحلا نظام بحنا لكن أنا كوارو بحنا سأستمت وزارة وحيكون مشغول سنتهاي إن دكسيد القرآن الكريم كان لا يسار والدوين يومالها عن مناسب كان كوهين لجيو جواه الوضوء تلقلي جواه الدوري لا لجيو أرضينا منهج أيام وقت تلقلنا شهادة نقدنا بإذن الله تعالى وحنك مرة بعد يمرسد هذا نوهم برينا يا دفعها كان كقليل دميسي معمولك يو معلمين يو أرضينا وراء وده صاحب بدو وقهر قليل بدل الشدة وأنا ضمبيت دوننا مرة بعد مرسد هذا وحن لنا همبليو السلام على رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal iyo dowlad goboleedyada wasiirada wixii jooga dhammaan mas-uuliyiinta halkan ku sugan macallimiinta jaamacadda Hope Green Hope iyo jaamacadda kale ee KIU ay saaxiibada yihiin oo shaqaynta kala dhaxeeyaan mas-uuliyiintooda dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadal waa la dhameeyey keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo hambalyo 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 dhammaan ardada ka qalin bedelanayso muxuu ahay jaamacadda quruxda badan leh ee halkan fadhiya wiil iyo gabdhaba leh dhammaantiin waa idiin hambalyaynayaa. waxbarashadu waa shay aasaasi ah waxtarkeeda horeyaa loogu sheekeeyey waa nuurka dunida haddii aan waxba la baran nuur ma yeelatee waxbarashada waa nuurka dunida aan maanta ku noolnahay heer kasta oo la kala marayo dad baa dayaxaa korkiisa maraayo dadaa hadde aqoonta meesha ugu dambaysa ka gaari laakiin lawaa qof yiraahdo aqoon waa ka soo dhargi waa ka soo laabtay qof yiraahdo lawaa waa jaanis idiin furan inaad sii wadatiin muxuu ahaay waxbarashadiina ilaa aada heer ka gaadhaan. taas ku dheeraan maayo hal shay aan idiin xasuusinayaa haddaad tihiin ardada maanta halkaan ka qalin jebinaysa haddii aadna back up lahayn wax ma aada barateen waalidiintii idiin soo garab istaagay ee juhdi badan idiin geliyey ee muxuu ahaay hantidooda idinku beelay ee garabkii idiin laalaadiyey ee idiin quudinayey ee buugga idiin galaayey waxaa la rabaa maanta wixii hadda ka dambeeya adigu kuu baahan yahay inaad xasuus u yeelataan oo aada baariyaal noqotaan oo waalidiintiina ama walaalihiin dadkii idiin soo garab qabtay aada xasuus u yeelataan ayaan aniga idinku waaninaya. waxaa kaloo aan idinku waaninaya hal maalin qofkii cashar kuu dhigay ee macallin kuu noqday oo kusoo hor istaagay cise iyo sharafoo kuugu leeyahay meeshaad ku aragto inaad ku cisaysid ood u istaagtid oo aad tiraahdo macallinkayga intaasna waa idin xasuusinayaa. runtii iskama aanan 16 sano ku dhowaad laga soo bilaabo baasi iskoolkii ilaa jaamacadda aad ka dhamaysaan qof kaligiis isku filnaayo oo iswaday ma jiro waalidiin baa idiin soo waday waalidiintii maanta waa faraxsan yihiin marka ay maqlaan carruurtoodii oo qalin jebinaya idinkana sidaas oo kale inaad garabka ugu laalaadisiin. soomaaliya ma qabto canshuuris wax la yidhaahdo canugu waa waalidkiis canshuuriskiisa waa caymiska oo aad haysato waalidka oo haysto waa canugiisa haddii shalay isaga kuugu soo juhdi geliyey adigana inaad juhdi ku gelisaa ilaa aad muxuu ahaay aad meel ugu hobsatid waalidkan. aad iyo aad baad umahadsantihiin waxba ku dheeraan maayo aniga labada nuqdo aan soo qaadanaya waxaa weeye inaad macallinkiini garabka u laalaadisiin marashid ku aragtaan iyo in waalidkii loo cadaalad falo oo idiin soo gaarsiiyey intaan aad iyo aad baad umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. xildhibaanada heer federaal wasiirada heer federaal iyo xildhibaanada iyo wasiirada heer dowlad goboleed dhammaan madaxda jaamacadda Green Hope iyo macallimiintooda oo ugu horeeyo runtii gudoomiyaha jaamacadda Professor Hussein Tooxow iyo dhiinka jaamacadda Mustafa ardayda waalidiinta iyo madaxda garsoorka kuwii hore iyo gobolka banaadir iyo dhammaan martida sharafta leh oo bulshada ka mid yihiin sida walaasheen Fatuulo oo haweenka iyo ciddii kale joogto marti waliba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii khudbooyinka waa lagu daalay muhiimadooduna waa in maarta la bogaadiyo ardaydan runtii lala qaybsado maanta
farxadooda iyo kala bedelashada waa inta ugu muhiimsan waa intaas waqti dheer bay wax ku soo jireen runtii socod dheer oo waxbarasho oo runtii jaamacadan Green Hope iyo jaamacadda ay bahwadaagta yihiin KIU oo ay runtii iska kaashadeen iyo intii kusoo tacabtay waalid iyo macalinka runtii khudbooyinka dee waxay ku saabsan arrimaha fulinta ee federaalka ama xukuumadda wasiirada ku hadlay xildhibaan isagu fulin maaha shaqo idinla badan qaadaayo laakiin waxaan idiin sheegayaa runtii dalkan taqyiirka uu u baahan yahay ama isbedelka in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim meeshii la joogay 5 sano ka hor lama joogo meeshii 10 sano ka hor waan ognahay intii aad ku jirteen 2006 iyo maanta dufcaddii hadda sagaalaad iyo oo qaybta ah bachelorka iyo dufcadda saddexaad ee ah digriga ama masterka kulley ninkii halkan ka hadlay wuxuu yidhi labaad baan ahaa mana helin maamuuskan oo kale marka waxay ku tusaysaa in steps badan hore loo qaaday sida maanta dufcadda sagaalaad iyo saddexaad ay heleen oo kale inaanay helin tii sideedaad ama tii toddobaad ama tii shanaad laakiin waxaad joogtaan dal burburay waxaad usoo qalinjebiseen ama usoo qalinbadgalateen runtii dhul amnigiisa dhaqaalihiisa iyo maxaan ku idhaahdaa wax badan runtii ay ka duwan yihiin ummadaha kale ee aanu dariska nahay waxaa la rabaa idinka cidna maanta saxan dahar waxba idinkuma siinayso idinkaa laydinka rabaa inaad dhammaantiin inaad shaqaalo dowladeed noqotaan ama aad ciidanka ku biirtaan ama ma noqonayso waa in qofku uu isagu samaysto barnaamij nololeed ardayga markuu wax barto waxaa rabaa inuu initiativkiisa la yimaado ee maaha inuu isagu ka sugo inuu xafiis weyn iyo kursi warwareegayo in loo dhigo inaan sugin oo runtii aad isku tashataan nolol abuurtaan sida haddaba ay aad uga dhacdo meelayo badan oo aan ka arkay keliya badan buugga qalinjibinta markaan fiiriyey waxaan arkay inaad 4 faculty professor Koco iyo dhiigka professor hormuudka jaamacadda kuma arkin xoolaha iyo beeraha iyo kalluumaysiga kuma jiraan facultiyada aan arkay waa nursing iyo waxbarasho iyo amni waa wax loo baahan yahay laakiin dalkan waxaa la dhihi jiray dhaqaalihiisa wuxuu ku xiran yahay xoolaha iyo beeraha waana runtii waxa in la barto ay sahal tahay macallimiintooduna ay anfilaayo marka waxaan leeyahay hormuudka kuliyadda Dr. Musaf inay mustaqbalka ka fekeraan in biyahan dadka baabi'iyey fatahaadda in laga faa'iidaysto ee dadkii guryaha iyo beerihii ka khadibay in looga faa'iidaysto xag wax soo saar iyo xoolihii iyo beerihii iyo kalluunka kalluumaysatada dee wama aqaano weyn ilaa hadda ma arkin dad oo ku dhiirigelinaya waxay iska noqotay badeenaas ugu xeebta dheer badweynteydii inaan runta sayta aan uga faa'iidaysanin khayraadka ku jira waa loo baahan yahay in taladiina runta asaatidii meeshaan ka hadlay iyo madaxdii baa dhameeyey aniga runtii war badan ma lihi waan idinku bogaadinayaa waa idinku hambalyeynayaa waalidiintii iyo ciddii idin soo tacabtay iyo macallimiinteedii waxaan idin leenahay hambalyo allah idin guuleeyo soo dhowaada haddana dee dadaalka iyo ma dhammaanin waxbarashadu xadiid weeyaan dhalashada ilaa dhimashada maaha war oo qof iska yiri waa xadiid nebi waxa weeyaan dhalabta ilmaha yar markuu dhasho ilaa dhimashada oo lixda uu galo waxaad ku jirtaa waa xilli waa periodkaas u dhexeeya waa period waxbarasho waa mar walba wax baa ku kordhay aqoon dee kolley dhibaatadan haysata khaasatan deegaankan aad wax ku barateen muqdisho dhowr waxaan arkay kambas baad ku leedahay muqdisho laba ah iyo beledweyne iyo ma aqaan meel kale baa dheer meel marka dee waxay la tahay gobollo badan oo u baahan haddii la geyn karo ardaydooda oo laga faa'iidaysan karo waqti loo helayo in lagu daro iyo in fiiliyadaas aan sheegay waa iga talo waa runtii wax badan bay ku xiran tahay factors badan baa ku xiran waa ogahay laakiin waa dadaal baa lagu sameeyey intaaba marka waa idin hambalyeynaya waan idin bogaadinaya ardayda wujuuhda quruxda badan waa idin soo dhaweynaynaa dee haddana waxaan malaynayaa golayaashu waa dhammaadeen heer federaal doorashaa la galaa
tartanka dhinaciina ka soo gala waxbaa waa gaar fiican haysataa soo dhawaada aad runtii maanta waa maalin farxadeed anoo ku hadlaayo magaca haweenweynaha Soomaaliyeed oo ay joogaan maanta waa noo farxad maanta farxadeed lama soo koobi karno ubadkii aan soo dhalnay aan soo korinay maanta qalinjabintooda qof walba hooyo wuxuu dareemayaa aabbo waa dareemi kartaa taas aad u dareemayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa macallimiintii aad iyo aad usoo tababartay waqtigooda soo gelisay oo maanta heer kala jooga soo gaarsiiyeen aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa jaamacadda Green Hope iyo KIU sida maaragtay sharafta leh maaragtay ardayda wax u soo bareen heerka maanta la jooga u soo gaarsiiyeen dufcaddii 9aad oo dhinaca baajka ah iyo dufcaddii 3aad oo ah masterka marka waxaan u rajaynayaa qof walba oo wax ka soo qabtay ama talo ku lahaa jaamacadda in la aasaaso maanta heerkay joogtana soo gaarsiiyay aad ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa waalidiintii waqtiga badan soo geliyay oo habeen iyo maalin u soo waxeeyay oo aan ognahay qaar duruufaha adag ay ku jiraan inay ku soo koriyeen carruurtooda maanta inay tahay farxadooda waxaan u rajaynayaa guul waxaan kaloo rabaa maamulka jaamacadda inaan ka codsado maadaama aan senator ahay oo runtii maamul goboleedyada kullina u baahan yihiin jaamacaddan horumarkaan gaarsiisay dhalinyarada in la geeyo maamul goboleedyada oo dhan hadda sidaan ogahay Jowhar iyo maaragtay Hiiraan way ku taalaa laakiin waxaan rajaynayaa maamul goboleedyada kullina inay wada gaaraan si ay uga wada faa'iideystaan dhalinyarada gobolada ku nool iyagoo joogaan hooygooda iyo gurigooda aan maaragtay u galin culays iyo xamar inay soo aadaan marka aad iyo aad u mahadsantihiin taasna waa talo waxbarashada waa muhiim maaragtay hadda kulliyadda hadda ay barteen aad ay dalka muhiim ugu tahay wayna ku yar tahay waxaan rajaynayaa inaan ugu sii daro sida maaragtay dekedaha cilmiga badda cilmiga aviationka cilmiga maxaa ku dhahaa cimilada cilmiga beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysigana runtii iyagana waa muhiim sector aad muhiim u baahan yihiin dhallinyaradeena iyo dalkeena oo kheyraadkiisa faraha badan yahay aad iyo aad idin salaamaya waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamaya dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan loogu dabaaldegay ardaydan ka qalin jabisay jaamacadda Green Hope qof walbana waxaan ku salaamay anoo idin kala saarsaaraynin mansabka uu ku fadhiyo iyo magaca uu ku fadhiyo waqtiga cariiri awgeed wixii badnaa oo la rabo in la sheegana waxa waa hore la soo sheegay waqtiga salaadana waa ina soo hayaa waxaan leeyahay kaliya marka hambalyo wixii dhiirigelin ahaa wixii dardaaran ahaa hore aad usoo qaadateen maanta maalinkiini waaye waxaan ogahay marka in dad badan oo aan maanta fursad u helin inay idinkala soo qayb galaan munaasabadan oo ay ugu horeeyaan walaalo asxaab kale inay banaankeeda inay sugayaan guryaha idinku sugaya xaafadaha idinku sugayo idinkuna aad saacaddii shaqo haysaan marka waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan ilaahay aan ka baryayaa in cilmigan aad barateen uu idiin noqdo kii idinkuna aad ku intifaacdaan dalka iyo dadkan waxa waaye aad wax ugu qabataan waalidkii waxa waaye 24 saac waxa waaye juhdiga idin soo gelin insha Allah midka ay ku liibaani lahayn Allah ka dhigo marka waxaan idin leeyahay hambalyo dhammaantiinba sidoo kale waxaan rabaa halkaan anoo ka faa'iideysanayo munaasabadan in aan halkaan aan hambalyo iyo bogaadin iyo mahadnaq aan uga soo jeediyo maamulka sare ee jaamacadda Green Hope iyo jaamacadaha ay bahwadaagta ay yihiin iyo sidoo kale dhammaan macallimiinta iyo shaqaalaha waxaan gabagabadii anoo idinkala qayb galaya tiiraanyadii iyo tacsiga aad u dirayseen macallinkiini oo jaamacadda idiin soo dhigay maantana fursad idiin helo idinkala soo qayb gala waxaan leeyahay marka marxuumka waxa waaye marka inuu ilaahay naxariistiisana uu ka wanaabsho eheladii iyo qaraabadii asxaabtii uu ka tagay dhammaan ardaydiisina waxa waaye samir iimaan inuu ilaahay ka siiyo wixii intaa ka dambeeyana waajib waa wuxuu idinka saaran yahay salaad walba iyo daqiiqad walba macallinkiina aad soo xasuusataan sida aad waalidkiina aad ugu ducaynaysaan inaad isagana inaad u ducaysaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waa iska soo koobaa madaxda iyo mas-uuliyiinta qeybaheeda kala duwan bahda waxbarashada waalidiinta ardayda bahda garsoorka ururada bulshada rayidka bahda saxaafadda mas-uuliyiinta ciidamada amniga dhammaantiin mar labaad iyo mar saddexaad qof walba mansabka iyo darajada halkan ku jooga ku salaamaya salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib runaantii wixii hadal ahaa iyo kelimad ahaa waxaa halkan ka jeediyey mas-uuliyiintii kala duwaneed oo halkan ka hadlay
waxaan rabaa saaxiibkay cabdiqadar maxamed xasan gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo u gartay in garsoorka gobolkan aan ku hadlo ama magaca guud ee garsoorka saaxiibkay halka uu fadhiya ka salaamay gudoomiye waa salaamada intaa kadib waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ardayda kala duwan ee ka qalin jebinaysa kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Greenhope oo kala ah masterka iyo bachelorka sidoo kale waxaan rabaa martida nooga timiday oo martida kala duwan ee ka timiday jaamacadda KIU ayagana waa salaaman yihiin run ahaantii waa fursad weyn waa fursad qaali ah waa fursad qiimo badan in aan xafladan maanta ka soo qayb galno waxaan rabaa ardayda iyo waalidiinta ay carruurtoodu qalin jebinayso inaan ugu hambaliyeeyo farxadda maanta iyo natiijada ay gaareen ayaga iyo carruurtooda run ahaantii farxad weyn ay tahay inaan ka soo qayb galo munaasabadda qiimaha badan oo aan ku dhiirigelinayna ardayda Soomaaliyeed ee duruufaha adag wax ku bartay isla markaana diyaar u ah inay dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeeyaan aqoonta ay barteen sidoo kale waxaan u rabaa inaan u mahad celiyo madaxda jaamacadda Greenhope maamulkeeda iyo macallimiinteeda dadaalka qiimaha badan ay ku bixiyaan ardayda Soomaaliyeed inay heerkaas soo gaaraan iyo sida ay diyaar ugu yihiin ama daacad ugu yihiin mas'uuliyadda ay ummaddan u qaadeen isla markaana ay u faafinayaan cilmiga iyo aqoonta ay dadka Soomaaliyeed dhexdooda ay rabaan inay uga faa'iideystaan farxada ii tahay mar kale in ardaydan dhalinyarada ah Soomaaliyeed qiimaha badan aqoonta leh wax bartay ay u soo istaagaan badbaadinta dalkooda iyo dadkooda ay qayb ka noqdaan waxaan rabaa inaan ugu hambaliyeeyo inay maanta jirto fursadii dhalinyarada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed waxaan rajeynayaa inay ka faa'iideystaan systemka dawladda waxaa ilaahay mahadiisa hadda waxaa aad ugu badan dadka dhalinyarada ah hoggaanka dawladda waxaan rajeynayaa inay wixii ay barteen iyo aqoontoodii iyo wixii ay muddada dheer u samraayeenba ay dalkooda iyo dadkooda ku horumariyaan qof walba khudbadaha halkan laga jeediyey waxbaa ka taabanayay ama saameyn ku lahaa aniga si gaara waxaa saameyn igu lahaa qaybta criminology-ga anaga haddii aan nahay bahda garsoorka iyo hay-adaha baarista dembiyada ee booliiska waxaa aada noo quseeyo qaybtaas oo criminology-ga waxaan u baahannahay dhalinyaro Soomaaliyeed aqoon leh wiilal iyo gabdho leh soo bartay habka baarista dembiyada damiirkoodu nool yahay dalkooda iyo dadkooda inay daacadnimo ugu shaqeeyaan diyaar u ah si aan u gaarno cadaaladda aan raadinayno waxaan ka shaqeynaa garsoor iyo cadaalad waxaan u baahannahay meelaha uu ka soo bilaabanayo inay uga soo bilowdaan si sax ah oo ay ka soo shaqeeyaan dad Soomaaliyeed oo aqoonti leh oo damiirkoodu nool yahay oo aan eex iyo qabyaalad iyo musuq toona aan go'aanada ku gaaraynin waa idin dhiirigelinaynaa farxadda aad dareemaysaan iyo miradhalka natiijadii aad muddada dheer u safraysay inaan idinkala qayb qaadanaynaa dadku aad u daalan yihiin waqtigu waa xilli dambe salaadii duhura la gaaray mar kale waan idin soo dhaweynaynaa waa idin mahad celinaynaa fursadda dhallinyaradana waxaan idin leeyahay yaan la dayicin aanu ka faa'iidaysano fursadda maanta aan haysano wixii aan barannay ee aan muddada dheer usoo samraynay oo dalkanoo burbursan aan wax soo baranaynay inaan ka faa'iidaysano oo aan jaaniska dhalinyaradu ay maanta haysato aan la dayicin aqoon qof walbana uu ku shaqeeyo wixii uu bartay oo takhasuskiisa ahaa adigoo criminology baratay ma aha inaad dadka caafimaadka wax bartay aad fursadooda aad ka khasaariso aqoontaada aan ku talagalno inaa qof walba hal abuur uu la yimaado dadkan oo dhan iyo inta sanad walba jaamacadaha ka baxdo dawladdu shaqo uma heli karto dad hal abuur leh oo aqoontii leh oo dalka waxa ka maqan soo siyaadiya aan noqono waa mahadsantihiin alfa mabruuq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aan lahaa xildhibaanada wasiirada federaalka garsoorka bahda meediyaha iyo dhammaan inta maanta ka soo qayb gashay xafladda sharafta leh lagu maamuusay ka qalinjebinta jaamacadda Greenhope dufcadii 9aad ee bachelorka iyo dufcadii 3aad ee masterka waxaan moodaa in dadku ay daaleen loomana dhaho hadal iyo khudbad waa dhiman tahay
waxa weeyaan waxaan u soo istaagay keliya inaan hambalyada la wadaago waxaana intaas sii dheer Soomaalida waxay ku maamulaa owlaadka weyn ilmana aabaho mar haddii wasiiradii federaalka ay hadleen ay meesha ka hadleen waxay ahayd dadka aniga ka mid ah in la iska dhaafo laakiin waxaa laga yaabaa maamuus gaara iyo tixgelin gaara inay ugu waceen si gaara ayaan ugu tixgelinayaa maamulka jaamacadda iyo ardaydaba sharafta ay ugu sharfeen inaan kelimad yidhaahdo waxay kaloo munaasabad gaar ay ugu tahay ardayda ka qalin jebisay jaamacadda Green Hope dufcada sagaalaad qaar ka mid ah oo aan aabahood labaad ahay ayaa fadhiya oo jaamacadda ka qalin jebiyay hadda oo ka mid ahaa intaan dowladda soo gelin federaalka Soomaaliyeed mas'uul ka noqonin agoontii ku soo barbaartay xarunta daryeelka bulshada ee Al-Salaam ee aan maamulaha ka ahaa jiray marka waxaan dareemayaa inay farxad gaar ah tahay agoon yar oo soo barbaariyay oo ilaa oo soo qaangaaro gacanta ku hayay maanta jaamacad ka qalin jebinayo inay isii tahay fursad gaar ah waxaan rajaynayaa inaan qayb ka noqdo xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ana wa kafirul yatiimi ka haatayni fil janna ayaa rajaynaa marka dareenkaas ayaa dabcan ayaa keenay mooyaane waxaan leeyahay dhammaantiin inta ka qalin jebisay jaamacadda Green Hope dufcadeeda sagaalaad baajka iyo masterka hambalyo ayaan leeyahay waad mahadsantihiin horena u socda cilmigu waxa weeyaan ma dhamaanayo dibul cilmi min al-mahdi ila al-lahd waxaa kaloo jiray imaam Shaafici rahmatullahi alayhi gabaygiisa ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman falaysa al-mar'u yuladu 'aliman وليس أخو علم كمن هو جاهل ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته أقوانا لنا حضر ولمرت أقوانا لنا دردار الأولية وحنا يشعر وقع يقول يا دردار يوانا ولا انت سويه بروفيسور حضر وزير أقوانا حضر xildhibaan la aqoon la hadlay waa la dhameeyey jaamacaddu yarsan waxaan ku dardaarmaynaa oo midna waalidiinta kula dardaarma midna aan kula dardaarma qalinjibiyaasha labada jaamacadood ee isi saaran ee Green Hope baajka iyo aan la dardaarmaya waxaan leeyahay hore u socda waa idinku duceynayna waan kula dardaarma hore u socda hadda baajka waxaa u dhiman masterka hadda saddexda jeera masterka ay dhiman qolada masterkaana ha aadaan PhD hore u socdaan waa idinku boorigelinaa waa idinkula dardaarmaynaa odayaasha dhaqanka hataana intaasaan idinkula duceynaa idinkula dardaarmaynaa waxaan kaloo rabaa inaan sheego jaamacadda bahagaata la ah oo Cameroon oo macallimiinteedu meesha joogaan ayagana waa mahad celinaynaa soo dhawaada leenna boqolkiiba boqol soo dhawaada waana mahadsantiin madaxda qaranka ee federaalka oo ka soo qayb gashay shirkan aad ayay muhiimadii ku tahay ama noo wada tahay inay ka soo qayb galaan oo kelimadooda ka yidhaahaan waxbarashadii aqoonta xag siyaasadeed kaga hadlaan xag aqooneed iyo dhaqanka kaga hadlaan aad ay u mahadsanyiin oo u soo dhaweyna odayaasha dhaqanka soo dhawaada waa idin mahad celinaynaa waa la dardaarmaynaa waana baxshay dardaarankaas annaguna waa u ducaynaynaa waalidiinta waxay soo barteen khayr allah siiyo oo aan ka mid ahay yaa ha ka caajisina waxbarashada ku socda ma dhamaataa la yidhi waa tii lagama macay si diiniya iyo si caqliya waa looga maamo hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladda maanta halkaan loo fadhiyo inay arkaan inuu guurka gaaro taa waxaan leeyahay hambalyo ayaan u hambalyana haddii aan yidhaahdo dhammaan ardaydii ka kala jebistay sidoo kale waxaan u mahad celinayna waalidiintii gacan ku siiyey ardaydan inay soo gaaraan heerkan oo as leeyahay runtii xaalad adag waddanka iyadoo uu ku jiro inay u dhabar adeegeen inay ilmahooda ka saaraan jaamacad ama heerka waxbarashada jaamacadeed ay gaarsiiyaan
waana mid runtii as leeyahay waxay gacan ka geysanaysaa horumarka bulshada iyo sidii dalkan uu dowladnimadiisii iyo xasiloonadiisii iyo usii xoojisan lahaa una soo haran lahaa inta dhimanna u dhammaystiri lahaa waxaan leeyahay ardayda maanta qalin jibisay khaasatan kuwa bachelarka waxaa maanta hesheen furihii horumarka marka weli waxaa idin dhiman sida horumarkii aad ku gaari laheedeen maxaa yeelay aqoonta jaamacadeed waa mid ku siinaysa inaad fursad u heshid inaad horumar naftaada aad ku samaysid aad ku gaartid horumarkaas oo ah mid adigana naftaada horumarinayo bulshada aad ku nooshahayna kula qaybsanayaan horumarkaasi marka waxaan leeyahay furihii waxaad hesheen horumarka wixii hadda ka dambeeya waxyaabaha waajibkeeda kuwa waxay tahay sidaa usii xoojin laheedeen waxbarashadiina iyo sidaad waxaa u barateen u adeegi laheedeen bulshadiina idinkoo isticmaalaya aqoontii aad barateen iyo inaad sameysaan researchyo iyo akhris badan oo sii xoojinayo wixii aad barateen runtii waxaad maanta soo gaarteen aqoon theory ah aqoon practical ayaa idinka dhiman oo ah sidii waxa aad barateen aa u wareejin laheedeen si oo practical ah waxay nala tahay taana waa mid laga helo waayo-aragnimada iyo laga dhaxlo iyo sidii maaragta aqoonta aad baratay aa u arki lahayd nacfigeeda hadalban meeshaan kama banaano aad baa waqtigiinu cayir u yahay laakiin waxaan farxad weyn ah inaan la qaybsano haddaan nahay bulshada rayidka ardaydan maanta soo qalin jibisay waxaana kula dardaarmaa mas-uuliyiinta jaamacadaha oo hadda green hope ay u horeyso halka maanta u joogno iyo kuwa kaleba inay iyagana mar uun ka fikiraan sidii ay u sameyn lahaayeen qorshaha ardayda jaamacadaha ka soo baxa ay u howlgeli lahaayeen ama aqoontooda ay u isticmaali lahaayeen taa in laga fikiro oo laga sameeyo researcho badan sidii dadka ardayda soo qalin jibinaysa u heli lahaayeen shaqooyin iyo waxa ay aqoontooda ay ku horgaaraan marka aada muhiim u tahay arrintaas bulshada haddaanahay waan kala shaqeyn doonaa bahda waxbarashada qayb ay naga tahay waxaan rajeynaynaa in arrintaas annagana dhinacana kaga boorin doono wixii aan kaga kari karana aan ku beerin karno aan ku beerino iyagana waxaan rajeynaynaa inay la imaan doonaan haddii alla yidhaahdo inay aqoontaas sidii ay dhalinyada ugu shaqeyn lahaayeen bulshadooda iyo dalkooda inay qorshe cad lala yimaado marka inta ayaan halkii kusoo koobaa waxaan leeyahay habalyo aada u maasantiin wabilaahi tawfiiq wasiirada stateska ka yimid ama gobolada kale oo mataqaana dawliga muxuu ahaay nabadoonnada sharafta badan oo waqtigooda waqti dheer la siiyey inay halkaan fadhiistaan oo ina dhegaystaan oo ugu badan tahay weli aana arag nabadoon intaan tiro le-eg oo ka soo qayb gala xaflad ama looga soo qayb galo waa aada iyo aad ayaa mataqaanaa waxaan kaloo mataqaanaa ururka haweenka islaamiga waxbarashada gobolka banaadir sidoo kale waxaan kaloo mataqaanaa warbaahinta mataqaanaa ayaan ayadana salaamayna in allaala intii mataqaanaa magac oo xil ku fadhiya meeshaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runta anaga waxay noo tahay magac weyn ama sharaf weyn ayay noo tahay in intaan oo kala duwan ay ka soo qayb galaan noloshayda weli ma arag xafladan waa xafladda ugu qiimaha badan waaye sidaan isleeyahay macnaha ugu dad badan waaye ugu population badan waaye taasna waxa kale waxay yidhaha seeing is believing macnaha aragtida ayaa markhaati ah macnaha waxa keenay dad badan ayaa ka baxay oo ka qalin jiriyey oo caalamka meel walba ka joogo markaa markhaatidaas wuxuu noo suuro geliyey in mar walba xaflad walba xafladda ka dambayso in dad badan aynu aan helayno mataqaana mujtamaca fara badan marka aada iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa magacayga iyo magaca jaamacadda iyo qaybahooda oo ka hadla waa idin mahad celinaynaa aada iyo aad aan idinku mahad celinaynaa waa idin soo dhawaynaynaa ilaahay waxaa idin kala geynaynaa inuu idinkana ajar idinka siiya jazaakumullahu khayr soo gelinta waa noo hilisaan runta wax noo hilisaan ardada intaan la ego nambarkan oo ka qalin jebinayso ayaad maanta tusteen farxadda ay mataqaanaa taasna waa runtii waa wax weyn waaye dad badan oo na arki jira iga maqnaay oo meelo kale aanu ku arki jira ayaa ka mid ah batuuloo kale ka mid a batuulo reer maada ayaan isku helay aniga macalin ayaan ka hay maada intaan jaamacadda gelin markaa batuulo way ilowda laakiin halkaasaan mataqaana shaqada qaranka maada ayaan mataqaana ayadan meesha waxaa kaloo jira xildhibaan cusmaan
asagana la foole ayaan isla joogay jaamacadda la foole oo deegaan ahaan u ahay markaa dad badan oo mataqaanaa aan meel kale inaan ka dhagay suurto galeen ayaa maanta ka soo qayb galay waa idinka mahad celinaynaa boqolkiiba boqol ayaan idinka mahad celinaynaa waxaa ardadaan meesha markaa aan fiirino waqti dheer ayay soo qaadatay in ardadaan meesha ku qalin jibiyaan waa 4 sano waaye wax yar ma ahan wayna u mataqaanaa waa u dhabar adeegeen waxaa la yidhahaa sacbahaaga ayaa biyo looga dhergaa arday fara badan aa laga yaabaa meelaha qaar jaamacadaha markay galaan inay wax yar joogaan ay ka tagaan laakiin ardaydaanu waxay ahaayeen arday runtii waqtigooda ku bixiyeen inay ku dibadgaaraan waxbarashadoodii taasna waa ilaahay mahadi oo maanta waxay taageen meeshii ugu dambaysa ayay taageen inkastoo la yidhaha baajka waxaa ka dambeeya qaybaha masterka iyo PhD-ga oo ardayga meelaha marka waxbarashada la qaybina ay tahay qaybta dhexe ay tahay haddana waxa waaye waxaa u furan oo jid u furan in mataqaana ardada hadda qalin jibiyey waxaan ogsoonahay kuwa kaalimaha galay kaalinta koowaad kaalinta labaad ardayda gale oo fakaltayaasha kala duwana ardadaas waxaan u ballan qaadaynaa sida Mustafa oo yiri si special inaan u siino kuwa kalena mataqaana wixii aan gaari karnana aan siino mataqaana marka sidaa daraadeed waxa waaye runtii ustaadka nin meesha raggan kama waa xildhibaanada kamid ah wuxuu ka hadlay uu yiri mataqaana taqasuska keliya ku ekaado waxa waaye anagana waxaan sheegnaa waxbarashada inay mar walba furo u tahay qofka inuu wax walba raadiyo mar walba waxbarashada 5 qaybood 5 faa'iido laga helayaa qofka inuu cilmiga xirfad ay ka helaa wuxuu ka helayaa aqoon wuxuu ka helayaa attitude wax la yiraahdo ama fariin ayuu ka helayaa waxbarashada mataqaana jeedinayso wuxuu ku helayaa qofka dhaqankiisa inay bedesho waxbarashada qaabka u shaqeeyo qaabka u dhaqmaa qaabka u hadlaa iyo waxa la yiraahdo value oo qiyamka waxa waaye qofka ardayga ama macalinka ama aqoonyahanka garaadaha u saaran laakiin garaadaha ma ciidamada waa garaadaha lagu hormeyna marka hormadaas waxa waaye waa yahay hormadaas waxaa guri tiir la'aan ma dhismo guri markii tiir loo daalayo dhisma waxay leeyahay marka dadka ka qalin jabinaa meeshan kale ma aanan tegin jaamacadda Green Hope tiirkeedii aad tiir ogaada tiirkii jaamacadda Green Hope ayaa tiir sida uma kala maarno sidana uma kala tegin waxaa si gaar ah ugu mahad celinayaa waalidiintii dadkaan dhashay sababta aniga la fooran ka baxay jaamacadda la fooran ka baxay boordina wahay dalka ingiriiska wuxuu tiri hay'adda waxay ka bixinaysay waxa waaye intaasoo dhan waxaan usoo mataqaanaa حقي مثلا لكن حقي وهو بدو وحق عند كل سلام وسلاش يسدحدي ده كان مركان كسو نقدي بوقت ما له وحلاقا قصه وها يونس كان كبيري بوقت ugu horeysay waxa soo ka soo gadnay gaar ina socday soo ka soo gadnay waa daabacnay marka daabacnay ka bacdi ayaa hadana buugta waayo fasalka shaqada dhaxal tolma dib u qornay jaamacadda ma yimid wala yaabay buugtaas waxa waaye maalinta laga bilaabo ilaa maanta waxa waaye manhajka Soomaaliya ku dhex jira manhajka cusub waxba ka soo saaray hadda laga bilaabo galidoon ilaa form 4 waxba ka soo saaray barnaamijka hadda wax ka wada ABE la yiraahdo accelerated basic education waxa waaye taas marka anaga waxay noo tahay marka university ka tagay 2006 ka tagay waa tashada aniga ku soo waa tashada waxaan waxbarashada university waa ka soo tagay maxaa sameeyna waxaan ku tashaday inaan jaamacadda abaabulno oo ana waxbarashada ka ana ka bixin oo ma taqaana anjiil kale aan soo saarno ilaahay mahadi waayo madiina waxa jooga aniga ayada mooriya farabada joogaan ee qoryo wataan qaar kamid waxaan sax inay ka baxay jaamacadda ma taqaana gino marka sida daraadeed waxa waaye waa wax ilaahay aad lagu farxo maanta in dadkan la helo tiradan leeg oo maanta nin ado mooriya una eego aqooya wax kasta waatee waxa waaye wuxuu leeyahay aqoon gaara waxa waaye dhaqan gaara uu leeyahay marka waxa waaye aad idinku ambaleynaa waxaan idinka rajaynayaa insha Allah taala inaad wax badan aafaidin inaad wax badan aad mataqaana aqoontiina meel badan ku ay mataqaana ay gasho marka insha Allah taala waqtiga waa waqti xun waa la joogaa duhurka waa la joogaa waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa mar labaad mar saddexaad dadka soo qaybgalayaasha maanta lagu sharfay maanta oo ugu sharfay dhalinyaradeena maanta inay ka farxiyaan
وهذا مثلا كسر هذا المدرسة معايا وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان 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 برواخ قارني استعمار كبيري بخشيشكي وبها بهيسكو بيرتو استعمار كبيري بخشيشكي وبها بهيسكو قبيل كالبو فينايو أساقين كوبيكسن مايني قبيل كالبو فينايو أساقين كوبيكسن مايني وحبرتان 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 برواخ قارني وحبرتان 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 برواخ قارني معدن تبور لغا باللابي بيا وبيا دا مرايو معدن تبور لغا باللابي بيا وبيا دا مرايو بدي بالريق غير كبحا رقصو بحيي رباني